Gostamos muito, né? Sempre. It's live already, I'm live. Yeah, I'm live. So good, it's kind of. Dhammaan asxaabta soo dhawaada waa barnaamijkii guurdoon iyo mar kale dhammaantii waan salaameynaa soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada waa mar kale iyo barnaamijkeennii guurdoon soo dhawaada dhammaantiin soo dhawaada come closer now come and sit next to me Negro. Wait, like it. Okay هذا كوب قاعدين Space must have been accent. So, I am doing good. Yes. yeah Very good. 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 Okay. ما شاء الله This position. ها position This is ها clear هو هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه معنا وناقصا سود هذا أصحابته ويدي وضع الصلانة سود هذا حبي معن أقرس كان سكي أنت كبرت أبى نجح الليسن ما نسحبت السود هذا حتى أقصد يا ما أركع بس سوبر soo dhawaada qalbi furo ku soo dhawaada dhammaan asxaabta meel kasta joogtaan waa mar kale barnaamijkeena guurdoon kale waxaa laga yaabaa commentka in aan time u samayn doono si aan u akhrino markaa dhammaan soo dhawaada waa guurdoon iyo mar kale waa anigu Faysa Cawila meel kastoo joogtaan waxaa ku soo dhawaataan qalbi furan asxaabta caawa waxaan ugu dhacay whatsappkii telefoonkii whatsappka meelahan uu inoo yaalay meel marka messengerka naga soo waca hana saalax messengerka please naga soo waca kolay maxay heeto maanta sheekooyin aad u macaan baan idii haynaa هاي maxaa ku furayna anag our sponsor oo mise shacabka Soomaali waxyaalo badan baan maanta rabnaa inaan ka hadalno the guurdoon who sponsor first time okay
insha allah tacaala asxaabta soo badato meel kasta joogtaan ku masar soo quraan dhawaada dirtay dhammaan shacabka soomaali meel kastaa joogtaan shanta soomaali waxaan leeyahay habeen wacan oo wanaagsan farxad ku noolaada waa guurdoon gurubo idinla caawana barnaamijkeena xiisaha lahaa idinle waqti fiican insha allah wada qaadan doonaa soo dhawaada emailkeedna waxaa ka eegaysaan adeyka waxaa soo dhigaynaa messengerka wuuna saaryaha normally waa soo diri kartaan wixii su-aal ah soo dhawaada caawa waxaa ka soctamaysaa hana saalax messenger insha allah tacaala already I think call starba laakiin waxaan call qabanaynaa after 15 to 20 minutes ma escape la ku dhufanaga haysta insha allah tacaala marka waxaa idin leeyahay soo dhawaada wixii su-aal qaba wixii kala kulligiin habeen wacan escape le no that one who does this one we need off yeah no but can you go in no soo dhawaada asxaabta habeen wacan oo wanaagsan oo gurdoon group kusoo dhawaada walaaladiin waxaan idin leeyahay farxad ku noolaada barnaamijkiina gurdoon wuxuu idin hayaa qof walba qofkii maxay ahayd xiise gelin lahaa ama laakiin shaqada ninkan igala rabaa because haddii aan nala shaqaysaan wax way hagaagayaan dalabaadkiina ha socdo gabdhaha iyo wiilasha intaba qof walbana dalabaadkiisa ha noqdo qof yacni wax macquul ah laakiin wixii markay noqdaan cayaar wax ma shaqaynayaan aan wada shaqayno soo dhawaada escape sakamanka ku xij oh my god soo dhawaada waxaan sugaynaa asxaabta insha allah inta dhiman inay soo gasho I think telefoonada way bilaabeen sorry waan inka yara baxnay dhammaan soo dhawaada kolle barnaamijka waxaan bilaabaynaa telefoonadii baa hadda furi doona insha allah already waxaan ujeedaa telefoonadii qaarkood baa soo dhacay okay telefoonka ugu horeeyaan qabanaynaa I hope qofkaas inuu khadku si fiican ugu galo dad badan baa markuu halo assalaamu calaykum halo assalaamu calaykum dheere wuu dheeryahay assalaamu calaykum okay codkaa wax yar kaa hadleysan speakerkiina waan kuu furay mii maqlaysaa horta cali mii maqlaysaa hello cali waxaad samayn kartaa waad nagu soo celin kartaa hello anigu haa waxa weeye waxbaa kaa yara khaldan bal ku soo celi one more time then waan eegi doona bal what happens second ku soo celi cause ma ku maqli karo ها علي باشا كسو علي إن شاء الله اوكي
khadka waxa weeyaan kolley waxaa ka muuqata inuu xoogaa malaa we don't know maybe inay dadka qofka soo wacaya ama inaga yahay marka dhammaan horta soo dhawaada barnaamijkeena guurdoon iyo mar kale emailo badan runtii oon ka helnay asxaabta guurdoonka ah dadka hadda caawana daawanaya hadday yihiin dadka emailada noo soo diray dad badanoo kolley aan u jawaabnay baa jira email kastoo yimaada runtii anaga waan ka jawaabnaa laakiin dad baa sometimes qaadanaysa time inta loo jawaabayo sababta ay tahay waxa weeyaan it's not like one email iyo two emails maaha emailadu aad bay u fara badan yihiin marka dabcan time badan baynu qaadanaysa inta email kasta laga soo jawaabayo marka taas horta yani ku seexda in qof kasta emailka ay time qaadanaysa inta loo soo jawaabayo because anagu maaha in markaad emailka soo dirtid ba straight away in lagu soo jawaabayo marka dadka emailadu aanay for some reason aan looga soo jawaabin waxaan u maleynayaa in 99% emailada ka jawaabnay aan u maleynayaa anigu say la tahay laakiin hadduu jiro qof matalanba for some reason aan weli loo soo jawaabin waa dadka markaa maybe by today ama tomorrow kale caawa by tomorrow kale haddana loo soo jawaabi doono weeyaan marka ha u maleynina in la idlaaway marka taas waa saa marka barnaamijkan rabna maanta caawa inaan ka hadalno qofka sponsor gareynaya barnaamijkan iyo sida marka dee dadka soo hadli doona iminka wax phone call ma u jeedo so far whatsappkii unfortunately whatsappkii waxa weeyaan waxa dhacday telefoonkii for some reason kuraasida hoosteedu naga galay telefoonka aad ku xiri waa enough messengerka la soo galo emailada la soo galo assalaamu calaykum dhammaan qalbi furan ku soo dhawaada waa barnaamijkeenii guurdoon waa anigoo faaysa cawila iyo hana saalax oo dhammaantiin qalbi furan ku soo dhaweynaynaa barnaamijkan intaana khadkan qabaniya sponsor garanaya barnaamijkan hana maasha allah waxaa istargay som star restaurant oo ku yaala Harrisden hadda fataax waxaan leenahay asxaabta London degan UK degan haddii aad u baahantahay cunto macaan oo aad rabtaan delivery shaqadaada gurigaaga jaamacadaada meel kasta adigoo jooga gaarigaaga lagugu keenay delivery la soo xiriir Guurdoon Group Restaurant Som Star oo loo bixiyay farmaajo geeya waxaan leeyahay cunto heelati leh inta macaan lagu gariyo qudaarta biyo hilibka lagu sameeyay ovenka qof walba yaqaan ama lagu sameeyo roast waxay dhahaan hilib aan saliid aan lahayn ama baruur oo healthy food ah zero fat ku soo dhawaada restaurant Harrisden Som Star runtii anigu dhowr goor aan tagay waxaan ka dooran karaa ma jiro cunadiisa aad bay u macaan tahay waxyaa qofka raba mataqaana inuu healthy food ka helana uu ka heli karaa marka dhammaantiin horta restaurantkaas aan ka soo dhaweynaynaa khaasatan gaar ahaan dadka degan London restaurantkaas oo barnaamijkan isagu sponsor gareynaya caawana runtii aan halkan ka salaamayno milkiilaha cabdifataax restaurantka iskale iyo dadka ku xidhan maxay hayto restaurantkaasba waan ka xumahay telefoonba hadda dabcan telefoonka ugu horreeya baan rabnaa hadda caawa inaan qabanno sidan barnaamijka markii horeba u sheegnay so far ilaa intuu barnaamijku bilaabay 12 qof baa guuleystay 12 qof ay guuleystay runtii waxaad u malaysaa intooda badan sidaan marka horena u sheegay iminkana u sheegayo inay u badnaayeen dadka Yurub degan iyo laba qof oo kaliya oo America degan United States of America iyo hal qof oo Canada ah Yurub waxaad u malaysaa dhalinyaradii iyo dadkii guurdoonka ahaa waxay u sahlisay inay dadku isu talaabi karaan oo mataqaana train xitaa maaragtay ay from magaalo to magaalo marka hadda so far runtii maan arkin dad Africa jooga oo runtii ku guuleystay guurka laakiin caawa waxaan rajeynaynaa in dhalinyarada Africa jooga in maaragtay sidii la isugu xidhi lahaa in maaragtay aan farowgan qabano waa mar kale iyo barnaamijkeenii Guurdoon dhalinyarada Africa jooga advice aan siinay samaha طبعا which advice waxay tahay markuu gabadha dalbanayo يعني وإني دهين 18 to 19 to 20 قف واحد البناية telefoonka ugu horreyn qaabanaya codkana furo barnaamijka السلام عليكم No, I don't know what happens man nadbaga kasi ayaga clear way samaha network I think inuu wax ka siiyin baan u maleynaya I'm not too sure wallahi
bal ku soo celi cabdifataax inuu haa qofka telefoonka soo wacay baan malaynaya magacaan uga jeeday meesha dhammaan dadka barnaamijka ku xidhanna runtii waan soo dhaweynaynaa waa mar kale iyo barnaamijkeeni goordoon dadka aan barnaamijka runtii la socon barnaamijkan waa barnaamijka keliya aan ugu talagalnay inuu isku xidho dadka inuu isku xigo bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan dadka guurdoonka ah da kasta ay jiraan marka leeyahay da kasta ay jiraan qofku kama maarmo guurka ilaa de malaa intuu waxaan maleeyahay uu balaa u nool yahay ilaa boqol ka gaar samaaha ilaa boqol ilaa intuu nool yahay kama maarmo karo guurka marka laakiin anaga dadka ka dhalan nool waxay leeyihiin 60 70 and we all we need explanation that one waxa waa inaan qofka ka bedelnaa qofku all yahay okay telefoonkan qabanaya qofku all yahay still answer we can open it yeah markuu all yahay xataa nolol u baahan yahay weel buu u baahan yahay assalaamu calaykum okay unfortunately codka ma la maqlayo today why aad baan uga xumahay wallahi okay hadda ku maqlaya caato waan ku maqlaya si fiican barnaamijka ku soo dhawow ad waxa tahay dadka barnaamijka runtii ku xiran waan garanayaa sawirkaagana waan garanayaa codkaagana waan garanayaa marka barnaamijka ku soo dhawow walaalo mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar shanaad waxa kula hadlaysa Faaiisa Cabdi kula hadlaysa hana way ag fadhida ku soo dhawow barnaamijka qalbi furan ku soo dhawow I think waxaan u maleeyaa tahay dadka registrationka ku jira oo weli aan u suurtoobin amaba ay u hagaagin maaragtay inuu ku guuleysto guurdoonka barnaamijka maxaad caaw rabta inaad noo sheegtid okay ونسيب dhinacna waxaad u malaysay inuu nasiib yahay markaan leeyahay horta waa nasiib horta guurka horta sidiisaba waa calaf haddaad garanaysid muuhan caato dad ogtay guurka horta sidiisaba waa calaf waxaad dhici karta ama dii guurka waa calaf yani waa sida haddaad dareemaysid dad badan inamo badan hablo badan qurxa badan oo maaragtay guurdoona baa laga yaaba xitaa inuu guurku ka daaho iyagoo haddana mataqaanaa anigoo ereygii Soomaali soo kaabinayda iska shidano mataqaana dee wax dhibaato aan qabin marka guurka waa maayo qofba isagoo 20 sano ku guursada qofba 30 ku gaarta qofba 40 ku gaarta horta guurka oo wax xag ilaahiyan ka socdo qofku markuu dhasho runtii dee la qoray qofkaas goortu guursanayo qofku guursanayo everything mid baa jirta barnaamijkan aan rabay adigana imka dad maadaama tahay qof barnaamijka dadka kale la neeysanayna in qofka marka la guurdoon marka la qofka okay waa guurdoon waa tahay haddana wax weyn qofkii anagu runtii waxaan markasta aan eegnay inaan qofka u helno qofkan islaana ila qofka adu waxa soo sheegatay mataqaanaa waxa rabaa inaan caynkaas ama talanba inaan ama waxa rabaa talanba gabadh dheer ama waxa rabaa gabadh qurux badan gabadh Ingiriiska joogta gabadh Afrika joogta marka dadkii in la xulo oo mataqaanaa dee la maashgareeyo dadkii oo la yiraahdo alla ilaahay matalanba inantan maadaama caata soo dalbaday matalanba gabadh joogta Europe oo kale in la yiraahdo gabadhaas ku haboon haddana adigii bay kugu xiran tahay adigoo kale for example da'daadii iyo da'dii gabadhii inama badan baa waxay soo dalbanayaan gabdho aad u yar yar oo dhan waxa raba 8 taas waxa hadhow ka hadlayna qayb 19 sano taasna runtii dib bay u keentay dadka guurku inuu ka daaho oo dee 1920 jirta runtii aad iyo aad waan aragnay sawirkaaga si caadi aan u garanaya runtii in caato muuhan dadaal badan baan ku wadnaa mid yar oo kale labadeena isla ognahay inkastoo aanan rabin inaan ka sheego meesha wax yar oo iska caadiya in yarba mataqaana meel yarba wax yar aan rabnaa haddii taas ay suurtoodo ay kaa yara dhiman taas hadday suurtoodo inkastoo ay tahayba dee mataqaanaa qofkii mataqaanaa gabdho badan ama wiilal badan qofkii dad raadi waxa raba 10 out of 10 inuu qofku 10kiiba 10 inuu yani ka hesho qofkii ma suurtoobayso laakiin adiga ها صح صح عادي والله وان اوغهي شخصيه قفكا iyo mataqaana iyo diinta ba haraysa عادي والله qof iimaan leh ها
طبعا of course ده وان اوغهي marka la inan daayar marka leeyahay yani qofka soo dalbanaya in 18 sano jirta ama 19 sano jirta Yurub gudaheeda runtii way adag tahay Afrika kale waxa laga yaabaa inta 15 sano inay caadi u guursan karto laakiin Yurub 18 19 sano 20 sano waa inay yar marka iskuulka dhiganaysa oo reerkooda la joogto runtii aan dib taqaan tashan karinba marka taas baan anigu leeyahay طبعا gabdho badan oo dhalinyaro ah oo guurdoona oo 19 jir oo 20 way jiraan laakiin adigu ogo caato soo dhameystira boqolkiiba 95% wax yar oo aan waxba hayn ba adiga wax yar ka yar dhaban taasna waxaan anagu rabnaa in ma taqaana aan ku helno qofka inuu camal hayo والله وان جعلنا نكون شاقة لك وحسلي سمتها وحفي عم حيالها قارب إن سي برايفت قفك اللوجو شاقة وح وين ما ها ولا لا يعني ما وح وين استشلاك ودي وتقانا مركا نقول نري جوردون وحاجة تو حياله أنا إنما ذا يهبلها بكتل بنا سر هبلها مثلا بقى إنه إن قبل دبارة إلى هاتو قبل إخلاق بدل وحيالها سكال قبل عن ما تقانا بالود لهين سدوا كلا إنما ذا بلاد طبعا بالود لهين لكن وحنو منينيا وحير عام بدنين با وحير كان منيهين intaan okay that's good bes hadaba waxa sameynaysaa si marka khadka ka baxdid insha Allah hadan aan inagu soo caadi u wada hadli karnaa hadana emailkii wada haysataana aan isagan kugu soo jawaabay ka war hadan emailka kugu soo jawaabnaba sax waa igu soo diray isaga ugu bisay sax waa hay aad ku soo dhaw barnaamijka bes marka la ku soo dhaw barnaamijka walaalo aad iyo aadna waan ku salaamay dadka hore yani anaga salaamay Allah salaam aad iyo aad ما شاء الله thank you أدبر ما هالسنة marka asxaabta aan isku soo noqono intii yareed ay idin sheegaya dadka Afrika jooga dhalinyarada guurkooda aan jeclay inay hore u socdaan waxay tahay qofka markuu ka soo dalbado gabar 18 ama 19 ama 22 xataa xooga way adkaanaysaa because gabdhii way yar yihiin nasiib mooyee gabar inay baxday iyada danaheeda gaarka u soo guursato oo ugu tala gasho mooyee يعني قبلها قاركود ما سوى قلا يا جوردون وح جوردون سوى قلا قبلها رورونكا 25 26 27 28 29 إلا يتيد أوبا مركو عن ليه هاي سيدي أديك المحاوة هشان أنا جن عن أي شقضوا صعته ده وح كبدلة 18 كأكون لجنتي كفقة قبل حفظ القرآن و18 بالقولية هاي من يرى بدنا صوت البضي أنا وجعلنا ويلش هنا أروسنا و very happy أجر كان كهلنا هذا نرجع لها لكن سيدي شقد سعت بليس ده بدله إن أوضح شقينه إن قبلها يعني ما شاء الله محل حوجها يلا أتكين جوركا يعني جوركا فضت بمركز طبقير كجرا إن هلا كله فائدة يستو because ده هذي إن قدس عن وحي بدر عدتك ما وضعه بس مت فإذا ده صح مركز هذيك الجوركا فضي يقولش إنه محل هذيك أنا فضي يلا أتكين sida guurku u bato uu ajir u noqdo in anagana ajir kaga helo marka saxaabta xalay soo dhawaada barnaamijku xaris basare some star restaurant oo ku yahay Risdan inta fiican cabitaan fiican fitamiino leh ayan everything marka xalay soo dhawaada halkan waxaan ka salaamayna milkiilaha Cabdifataax iyo reerkiisa waxaan leenahay ku soo dhawaada barnaamijka guurdoon barnaamijka qofka ugu horeeya risbasara insha Allah waxaan u maleynayaa inaan ku casuumi doono waqtiga Ilaahay qadaro إن شاء الله. كده ما واحد نكتب أصحاب بدن وبرنامج كحلين وكوميدي هاي مهند وأنت تدعى بدن وأنا كوبي كمان سوق كمان نقطع كومنتي ده هكذا كثيرين هنا هدي مارت سؤالنا ودين إنسان إن عاو وحرتينا قبلها تشوجا أفريقيا ربا إن أي جورسدان إنما أتشوجا يوروب runtii dad badan baa waxay soo weydiiyeen su'aaladaas ay leeyihiin ma xarabtaan gabdhaha Afrika jooga inay u soo kaxeysaan maxay heeto in Europe maya anagu taas maaha in shaqadayadu anagu waxaan hadii inaan ku dalbado gabadh Afrika joogta in marka gabadhii Afrika joogtay loo raadiyo hadii gabadhu ay tiraado Afrikan jooga ay jeceshay inay guursato inaan oo Europe degana sidoo kale marka anagu waxaan qof lagu qasbaya ma jirto in daadana qofku soo sheegto daadu soo sheegto baa loo raadinaya haduu qofku soo sheegto waxaan gabadh 20 sano jirta qofkaas baa loo raadinay marka dad badan baa laga yaabaa inay waxooda dhaqso u socdaan maadaama matalan ba dabarata wixiisu ay iska yarada sahlanaadeen laakiin dadka matalan ba ku dhagan da gaara ama dal gaara waxa laga yaabaa inay ka yarada daahdo taam qaadato laakiin at the end of the day kale anagu waan u dadaalayna in marka dadka emailka aan hadda ku celinay in oo lagu soo celiyay emailkii oo dhahaya maxaa la helay
ka fikir waxaa laga yaabaa inaad adiga dhanba aad ku jirtid registrationka inaad ku jirtid only 2 weeks 2 weeks aad ku jirtid marka qof 2 weeks ku jira registrationka you need time طبعا time bay qaadanaysaa inta adiga horta marka ugu horeysa aad ka soo baxaysid waxyaalahan kugu xidhnay oo mar kasta anigu aan afkayga kaga dhawaaqiyo inanka wax guursanaya anigu mar kasta waxaan ku xidhaa inuu inankaasu nahaado inan ka bixi kara guurka ka bixi kara guurka yaa ka bixi kara qof shaqeeyaa ka bixi kara guurka yaa ka bixi kara qof mas-uula ka bixi kara markaas telefoon baan horta qabanayna hadda inanka mar dhaweyd buu soo hadlay uu ka go-ay ها عليك سلام أبوي برنامج قردون كسر دوا مقعاقة هل كي جوكتا أبوي جربلك هاي أحمد برنامج قردون كسر دوا أبوي هرتا سؤال شاسع نوقف بديسان برنامجك هدا أديك جورسني ولا ضد جورسو علف كهلاي أدنى علف كاجا سويسا قربت رجس جريس ده هذه سمال وحي كوبا هذا ما قرنيسا سمال وحي كوبا هذا ما قرنيسا ولا لو سؤال أن أيجا يعني إن أي شقة كل هاي بيدتك ويديا بدنا because برنامجك أنا قاودنا wixii isguursada anaga sheegnay dadka isguursada way joogaan waxay dhahay private baan rabnaa oo ma doonayn in live yani aan ka soo dayno marka what we can do anaga halaas ka badan waa private issue barnaamijka anaga wadno qofku soo yaa isguursada heer waxa gaarna aan messengeradeenna qofku soo qoriya isguursada taas waa private issue boo barnaamijka dadka idin sameeyay ka faa'iideysta insha Allah soo dhawaada Okay. maxaa ka qabataa Germany marka okay gabadha halka wadankee ka rabtaa Germany oo Norway Sweden meelaha ma gabadha marka waa gabar aan wali soo guursanin mise hadday guursato xataa ciyaal leedahay okay abo markaas mid samee emailkeenaad haysataa gurdoon ma haysataa waa gurdoon 70 waa gurdoon 70 gmail.com waxaan jeclaa runtii inaan bogga ku soo qoro bogga ku soo qorayna fiikaan insha Allah taala waa gurdoon 70 gmail.com maqlaysaa boy ya marka abo intaas ku soo dir su'aalahaada halka adiga qof ruuxa guursado asaa guursado asay baraad u tahay adigana calafkaaga ka qaado emailka soo dir insha Allah nasiibkaada ka qaadanaysaa emailka kugu soo jawaabeena hay assalaamu calaykum soo dhawo thank you su-aasha nagu soo noqnoqonaysaan rabo wax yarina ka faaloodo su-aasha nagu soo noqonaysa oo طبعا yaa isguursaday طبعا barnaamijkan waa barnaamij nagu السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عمر كسلو برنامجك اوكي سفي عن وفايسع والبا كل هذا ليس هانا نوي اكفر ددا اد با لو في عن يحي codkaaga waa furan yahay waa lagu maqlayaa live fad ku jirta waa barnaamijkeena guurdoon okay wallahi aad bad ma san tahay maxaad caawno wadaa ma salaamad noo wadaa maxaad noo wadaa caawa okay okay dadka barnaamijka maxaad ma jeceshan inaad ku sheegtid dadka barnaamijka ku xidhan daawana ama ku daawanaya ma ku dhageysanaya su'aalaha rabay looga jawaabo okay barnaamijkan waa barnaamij jiro gabdhaha Soomaaliyeed iyo wiilasha Soomaaliyeed wax ilaahay meesha ku haya marka qof walba soo dhawaato qofkii nasiibkiisa ku duuqaysan oo sameeyay laakiin waxa uu sameeyay laba qof walba waxa uu inay soo barnaamijkan qaab wanaagsan
socdo dadka qaladka ka fahamsanna waa inay iska dhaafo qaladka ayaan leeyahay. waxaa jirta in cumar su-aal nagu soo noqnoqota dadkeena weydiinaya yaa isguursaday taa maxaad ka dhihi lahayd? Hadda wixii isguursada taas waa waa private something private you cannot tell everyone annaga okay dadka ka dhalata noocaas oo they want to know waxa something private especially cumar oo hablihii Soomaaliyeed kolle waad garanaysaa hablaheena runtii ee qaaliga ah way xishoonayaan inkastoo barnaamijkii aad arki kartid gabdhihii inaanay runtii si toos ah u soo hadlayn oo amaba maaragtay emailka ay ku soo yani ka soo codsigooda soo dhiibanayaan haddana waxay jecel yihiin gabdhihii mataqaana si private in maaragtay waxooda loogu sameeyo because inantii waxaa laga yaabaa caawa in walaalkeedba ku jiro khadkan isaguba ku jiro soo lagama yaabo ama aabaheed cumar gabadha sheegaysaa raggi baa naga diiday xataa raggi baa diiday waxay yidhahdeen private qofka suuxiisa private buu rabaa moogtaa noloshana private ay ku fiican tahay normal صح aad iyo aad cumar aad baad u mahadsan tahay cumar oo aad baad u mahadsan tahay maxay tahay barnaamijku waa barnaamijkaagii adiga laftigaaga haddaad jeceshay in maaragtay si toos wax lagugu sameeyo haddaad jeceshay private labadaba cumar maruu baxay I think ma soo noqon doono wuu tagay dad ka faa'iideysto ku jira soo noqonaa xabadaas ku filan xabadiisa hadduu soo noqdana waa other things waxa weyn dadka Yurub jooga horta anaga waxaan ku anigu dadka Afrika jooga iyo Mareykanka runtii qaabilsanahay daas waa been runtii aniga waxoogaa aan u maleeyaa gabdhaha Soomaaliyeed ee quruxda badan ee Afrika jooga waliba gabdhaha Cumar oo aad u yar yar wallahi oo opportunity heli kara inama Yurub jooga ay guursadaan oo laakiin laga yaabo maaragtay inaan fursad heli karin baan anigu runtii u dadaalaya haday ya dadkina waxay igu leeyihiin faayisa xawli waxa la rabtaa inaad soo xambaartid hablaha ay igu leeyihiin xambaar dadbar miya mar no way ma waxaa rabaa in la kala faa'iido samaaha هاي عمره اوكي وكسو دويننا thank you عادي عاد ما سنتين thank you دمان اصحاب البرنامج ku xiran waa mar kale iyo barnaamijkiina Jordan kale comment kiina iyo su'aalaha akhriina wadiinsan waxaan ugu soo reebi kartaan in maxay heeto in hadda imkaan ka akhrina commentiyasha qaarkood su'aashan markasta soo noqonaysa oo markasta dadku ay weydiinayaan yaa iskuulsaday anigu boqolkiiba boqol waxaan ku oranayaa so far 12 qof baa runtii guuleystay laakiin qasab ma ahayn qof kasta la yiraahdo waxa iskuulsaday hebel iyo hebla because waxa weeyaan hableena Soomaaliyeed runtii ma jecla in la yiraahdo barnaamijkan dad badan ba even hadda right now dhahaya wuxuu yahay barnaamijkan marka gabdhihii ma rabaan in ma taqaana in la yiraahdo in مثلا بهبله يعني waxay ka guursatay barnaamijkii guurdoon ما فهمت dad baa waxay la heesta maaga wax ma maqleen sorry yaa naga raali ahaada hadda comment-kiina aragnay wadii ka gaabinayna heesa okay comment-ka hadda akhrinayna sorry ha wax ma maqleen because they want to hear glasses ka biso dhib karta please I need glasses now sorry naga raali noqday hadda maqalnay wada minay apology maanta glasses khalad ama wataabe okay comment-ka ugu horeeya naga raali noqda ma ii maqlaynin hadda taleefka aqriyay yani naga damiya dhahdeen heesta naga gaabi because ma maqlaysan qofka hadlaayo iyo wixii ku hadlaayaan anaga ayaga okay marka sorry ana hargab ay ugu dhacodka iga xiran soo dhawaada asxaabta qiimaha badan qofkii su'aal qaba ku soo qor messenger-ka hana saalax kana soo wactan soo dhawaada khadar cali baan u jeedaa khadar cali hadduu maqlayo khadar cali wuxuu yiri numberkayga khadar waxa weeyaan number anagu imka intan qofka halka ka soo qaadno runtii aan soo wacayna ma jiro waxa weeyaan barnaamijka messenger-ka nagala soo hadal barnaamijka wuxuu leeyahay messenger-ka ka soo wici kartaa hana saalax haddii aad rabinayso lambarka waa lambar iska caadiya okay waxa laga yaabaa Yurub inuu yahay 6 abo messenger naga soo wac please adoo raali ah
laakiin mid baan rabaa inaan kuu sheegaya oo kuu sahlan haddaad rabti codsigaaga waxaad kusoo dalban kartaa emailka barnaamijka guurdon70@gmail.com waa guurdon70@gmail.com barnaamijka halkaasaad qofka codsigiisa kusoo dalban karaa oo kana sahlan qofka markaa waxyaalo badan dee faahfaahin uu naftiisa ka bixin karaa horta taas waa khadar cali qof kaloon annaga waxaan akhrina only waxyaalaha muhiimka muhiimka very important moogtahay okay please waxaan ka dalbanayaa asxaabta guurdoonka ah dadka mataqaanaa maasajada runtii fooqal xadka ah ee anshaxumada iyo maaragtay akhlaaq xumada ay ku qoran tahay la soco in anagu aan ku ignore garayna haddaad tahay aad u maleynaysi in mataqaanaa adigoo mataqaanaa si anshaxumo ah ama si mataqaanaa bala akhlaaqa maasajada qaarkood soo qoraya in mataqaanaa aan kugu khasaareynayna oo inaan email kuu soo qorno amaba gabadh kuu raadino marka please in uu dhib ugu imaan karo waxyaabahasu soo qoraya qofka please dad ba waxay usoo galayaan ciyaar dadna really marka emailka lasoo dirayo koley qofka kusoo qoray emailkiisa wax xun qofana soo weydiiyey su-aal qofana soo weydiiyey su-aashan soo idinkama la qabaa ha anaga waana la qabaa alxamdulilah taas anagu boqol goorna waan ka jawaabay imkana waan ka jawaabaynaa su-aalahaas may waa dad malaa cusub baan malaynayaa barnaamijka guurdoonta suurka u qora waxay tahay in labada qof wado ama dadka wado aan lala hadli karayn ama hal la qaba imayaana la qabin marka please asxaabta qiimaha badan soo dhawaada qofkii cusub ee caawa hadalkaasna weydiiya wuu cusubay soo maa saasuu ogow dastuur baa noo qoran aan anaga degsanay guurdoon dowlad gaar baa nahay gooni u taagasanaa ya guurdoon marka kusoo dhawaada comment aad u qurux badan baan akhriyaya hadda waxaa soo qoray commentkaas maxamed xasan cabdi okay wuxuu yidhi maasha allah inankaas wuxuu muujinaya inuu barnaamijka ka helay uu habi ku yahay mataqaana dadaalka anagu runtii aan bulshadeena u wadnana uu runtii isaguna u riyaaqay maxamed baa markaa rabaa mid yar inaan u sheego maxamed xasan cabdi haddii maqlayo maxamed oo qof kasta oo soomaaliya waxa weyn horumarka bulshadiisa runtii telefoon baan horta qabanaynaa هلا السلام عليكم ها السلام عليكم بنو في عنا ادوم في عنتي بليسي فد اداود عدكاga wax yar kar u qaad okay maahir cabdalla ku soo dhow barnaamijkii guurdoon oo si live runtii aad dadkuna ku maqlayaan aad ugu guda jirtid barnaamijka ma xaad kaga qayb qaadanaysaa ma guurdoon baa tahay ma annagaadna soo salaantay ma advice baadna siinaysaa insha allah هلا والله مقلية ماهر كداي هلا أما قربة صوت قلب sorry أنا قف مركو كجو إن أتين هذا إحنا لقى ميل فوق كسوع تماي قرقودة هلا كسر علي بليز إني كونكشن كان كحم بالملايين أما كارا صوت قلب أما كونكشن كان كحم بس كده بيصير قفل وصوت قلب يصير واشترى okay markaas qof kasta oo Soomaaliya wuxuu mataqaana horumarka bulshadiisa waxa jirta qaab uu uga qaato oo runtii maaragtay haday maxamed salaam marka inanka maxamed waxaan leeyahay dabcan anagu aniga iyo Hana Saalax barnaamijka maaha barnaamijka ugu horeeyay aan bulshadeena runtii aan u soo bandhigno barnaamijyo badan oo wacyigelisa runtii labadii sano ugu dambeysay aan sameeynay oo ay ka mid yihiin filmo iyo sheekooyin gaagaaban aan ugu talagalnay bulshadeena sidaan u wacyigelin lahayn marka aad baad u mahadsan tahay commentkaaga quruxda badan leh okay soo dhawaada dad badan oo su'aalana weydiinay kuma jiro isoo jawaaba aan hana walaal qays dalabaadkaada kasoo dhigo guurdoon emailka kusoo dirso ama messengerka insha allah anaga kusoo jawaabaan haddii aad guurdoon tahay iyo haddii aad su-aal kale aad weydiinaysid waxa laga yaabaa
qays haddaad tahay inamada emailka already noo soo gudbiyay because runtii been kuma sheegayo last week waxaan ka jawaabay ilaa I think waxaan u malay ilaa 500 emails inaan ka jawaabay haddii aad magac kala wadatid because hadda qays baad wata dab danba facebookana kusoo gala magac noloshoodana de magaciisa runta ah marka haddaad tahay dadka emailka soo diray طبعا waxaa laga yaabaa boqolkiiba 95% dadka waan uga jawaabay runtii emailada haddaad tahay dadka aan weli looga jawaabinna waan ugu soo jawaabi doonaa haddaad tahay qof aan weli aan email soo qorinna haddan kuu sheegayaa waxa weeyaan waxaad codsigaaga kusoo gudbin kartaa gurdon70@gmail.com waa gurdon70@gmail.com khayr badana waan kuu rajeynayaa been badana waa أنا كأقرن وإحنا نجرها أقرن. أوكي. كنت سؤاله بدل ما جرته وحنيش هذا عادي ضد تلفون دي سوق قرية رنتي ومركز تانو شيء إيميل كا جوردون 70@gmail.com. واتساب كم متشرنا بركة وحين نورمال وحنا نسوي كرتان فيسبوك مسنجر كان صالح. فإذا كجي يسمى because normal تلاقي مركز صاوع على سما مقلبة واركتين. أوكي. مسنجر كاسي كليرسون يعني مركز صور. قف كرمين برنامج كسر قاب كرتو سيدي هنا شيكتي مسنجر كهانا صالح بنقص صبيع كرتان هديك كوسوته هذا الإنترنت في ستين أما كونكشن في عن كل وان كا قبلنا نقد تلافون كا هديو كوسرتو ويدا أو مثلا بعد صبيع كرويدد واحد نقص صبيع كرتا سوري واحد عد سجاجة كوسو قد بين كرتا إيميل كبرنامجك gurdon70@gmail.com برنامج كنا يا ريسبوستر اسم ستار ريستورانتي وكيا UK نهار لسدن اريا إن waxaan leeyahay kasoo qayb in ku soo dhawaada cunto aad u qiimo badan oo idin yani xiisa gelisa in qodooyinka marka qabtaan aroosyada xafladaha in samta hadda rabta in lagu soo deliver gareeyo adigoo shaqadaada ama jaamacadaada ama gurigaaga joogtid ama gaarigaaga dhexdiisa xataa lagu keeni karo yani cunto aad ka heli doontid marka ku soo dhawaada restaurantkaas idin leenahay wuxuu idinkugu diyaar yahay inta aad u macaan xasan abubakar maxamed wuxuu leeyahay xaggan inka soo waca messengerka please adoo raali ah hana saalax messengerkeedaad naga soo wici kartaa haddii ay kuu suurtoobi karto haddii kalena waxaad codsigaaga kusoo gudbin kartaa emailka barnaamijku uu iska leeyahay waa gurdon70@gmail.com dad badan baan ujeeda telefoonada soo qoriya waxweyn telefonka marka soo qorti laguma soo jawaabayo yani lagama kuma soo dirayno emailidii loo soo diray this that's better email dad email laakiin insha Allah hadda if we can hatta we try haddii aan awoodno waa Soomaaliya inaan wax xiriirno laakiin please emailada soo dira wixii jawaaba كل سؤال يدنا يجيا بسي وحكمدا إن كدها يا وحرب جبر جبر جروبة إن جوسدو ما حبينا جبر جروبة إن جوستين وما يقدر واسيل مو شيء لكن ماشي كسوق أوكي ما عيسى ما عيسى أقرب because وحر ويلكاس ده جبر جروبة ربنا جوسدو وهرو سو جوستي ما هدي عيالك كمينا كداية قدها قروبة قبل بدن أو قروبة أو معركتي بحيث ويوينا أو معركتي شرف لي لقيا بها بريتاني كترتو لقيا بينه وراشا كترتو لقيا بينه وراشا كترتو بكبر ما عادي لقوا سكر يعني أبلان أنا ما بها نورا ما هي هيد إن هو إذا كلا تجدس معه لكن بديس هذي ركعتها ده يمجع عاجة يوحد قبتت يا أنت بقى إنه وصدر مسجرك. إنا بسجنا وحليه هي وحربا قبل إنه سجي هي حسب الملانية ناقل عقل إيجيا. أوكي تسواس كفتن ونسك دافية تاس. كل إيميل هذا والله وحيالها إيجيا بيو حكم ده هذي إنما بدون أقولها هي وحربنا قبل وين والعقل يعني قبل وين وحكي كود سلان وين والعقل. لا شور قبل إذا مركي وين تاني العقل هيسطو. مركا. هو يو. wuxuu qofku markuu weyn yahay lacag ma haysto dad ma way dad qof lacagta lagu sheegay adigoo yar ba heli kartaa ilaahay yani chance ku siin karaa inaad business samaysid ama inaad shaqaysid ama dhaxal kugu soo gasho
lacagta anytime uu ilaahay kusii way kusiinaa laakiin you know waxaa laga yaabaa jooskiis inuu yahay wiilkaas ana qof walba kusoo dhaweynaynaa dalabaadkiis soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada inuu dreamkiis yahay gabar lacag leh maasha allah dadku ka go-aya telefoonigii ka go-aysaa ya qofka sawac uu ka go-aya waan ku celin karnaa aniga ku celin karnaa samaha is marka okay qofka muu ka go-ay laakiin aniga ku celin dhibaato malaha laga siina kaas soo dhawaada asxaabta jumper wallahi ama anaga ahaynba uu kusoo qaldamay qofkani ayaa asalaamu calaykum aboraalo waxaa u malay magacaaga marka arina isra ama qofkan yani soomaali ahayn soo dhawow ha may barnaamijka waxaan ugu talagalnay mogtaa dadkeena kale yani barnaamijka u sameyna ummadeena soomaali aan cid kale ahayn marka waxaan isra haddaa qaldan tahay na iska dhiga soo dhawow bo magacaagii meesha kasoo hadlaysa maraykanka denmark qadar walba maanta kugu horeysa barnaamijka gurdoon maasha allah kusoo dhawow meeqa jir baa tahay maasha allah 24 marka waxaad dalbanaysaa gabar kula joogto denmarket mise gabar africa ethiopia maasha allah maasha allah maasha allah ilaahay caqligaaga kuuma daayo ilaahay kuu daayo aboowen waxaan kuu sheegayaa maxaa ka qabataa denmarket ardayta student yaa tahay jaamacad maa dhigataa last year miya okay tu yar ma ku hare okay marka maxaa is leedahay gabar shaqaysataa mise gabar aan shaqaynuga ku joogtaa ya okay maasha haddaan ku helo gabar afrika joogta ka waran ya waxaad jeceshay gabadha yurub jooga يعني ها ما runta hadda noo sheeg qadarow in yani gabar haddii aan afrika joogto aan ku helna caawa kasoo qabo yani habi maa ku noqon lahayd okay taasaa rab inaan kaa ogaado yani waxaa dhabtaa moogtaha good marka gabar yurub joogto maxay ahayd iyadana adigoo kale ah ama waxbarasho ku jirto ama dhamaysay ama shaqo ku jirto insha allah ama guri joog nasiibka wax walbaa nasiib moogtahay marka insha allah aan kugu rajis garaynaynaa marka qaad waxaa samaynaysaa emailkeena guurdon70@gmail.com kusoo dir codsigaaga marka codkaaga kusoo dar insha allah tacaala annagana kusoo jawaabeynaa barnaamijkeena waxaa ka daawataa inta ku dhaaftay hoggaan wanaagsan t v soo dhawow soo dhawow soo dhawow calaykum salaam mar kale waxaa ku guda jirtaan barnaamijkii guurdoon oo si toosa uga daawanaysaan facebook bogga faisa cawil gacmo furan kusoo dhawaada barnaamijka dhammaan asxaabta barnaamijka ku xiran kolley dad badan baa barnaamijka markasta runtii soo wacaya dadka u suurtoob weyday inay barnaamijka soo wacaan ama connection daraadeed ama khadkoo ka xun waxa codsigooda a kusoo dhiiban kartaan emailka uu barnaamijku iska leeyahay waa guurdon70@gmail.com waa guurdon70@gmail.com yal qoraal dheer noo soo diro rab inaan kaga hadalno oo jawaabeena marka hadda ka baxno maasha allah hello assalaamu calaykum hello waa inan haddana ka go-ay aad baan uga xumahay laakiin listen waan ku celin karnaa inaga markaan ku celino ha because strong waa soo ma aha I think wiil baa su-aal aad qurux badan soo qoray oo ku jawaabeynaa insha allah haddaan arka qoraalkiisa okay connectionka waxooga maanta caawas dadna wuu wanaagsan dadna wuxuu hadda waa kan ku celin u dhacay aad baan uga xumnaa runtii inuu maanta whatsappka uu shaqayn waayey waxaan rajeynaynaa in kolley maxay hayto in
messengerka u suurtooda inay dadka ay soo galaan oo markaa wixii ay dalabaadkooda ay sheegan karaan laakiin haddii ay taasi suurtoobeeda dhammaan asxaabta barnaamij ku xiran waxaan mar kale iyo mar labaad iyo mar saddexaad baa ogeysinaya in emailka uu guurdoon iska leeyahay barnaamijku guurdoon70@gmail.com codsigiina kusoo dhiiban kartaan dalabaadkiina waxaa u jawaabaynaa maxamed dhabar maxamed oo abow haddaana maqlaysid alla kool baa soo galay wuu ka go-aayaa halo asalaamu calaykum life waa u sheeg calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu ifka nolosha life waa baayo ifka nolosha barnaamijkii guurdoon waa life si life aad ugu jirtid codkaagan bannaan ku yaala dhasha waa la maqlaaya waa lagu dhegeysanaya haddaa baraaydu rabtid hadhow kugu soo celinaynaa ha gabadh soomaaliyeed ma waxaad jeceshay in codsigaaga okay maasha allah maasha allah okay that's good ifka da-daadu waa imisa ha ana iisoo dirta codsiga okay okay dasruuhanay usoo gudbisay سعيد أحمد عبد الحفيد أبو وكاق قبنينا نصاوع مسجرك صح سيستا maxay ahayd arrintaada waa ku jiray marka waxaan idhi another week baan haddana usii baahday wuu ku ognahay haddii caawa wax kuu soo baxaana sida kula soo socodsiinaynaa soo dhawow barnaamijka guurdoon calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu كل قبلها ما شاء الله thank you أبد ما هسنتهاي كل قبلها الصومالية دوا بالحشون يعني كنتي هدي أن لا يرتين تكترتو أن قف هولن شوجا أو إلا يجرو 45 إلا يو 47 هلا صار حريرو رير هولن يعني قبر في عنو وجور ربطو دقر ربطو ويعني قف دعده شرف القرب بدن بانو هايا قبل بدن يرى أيوة سيدا وكان إلا سو حرين ويل بس سؤالك جوابنا فايسة okay maxay ahayd markas tad noo soo qoray kamadka hoose wuxuu yiri waa maxamed dhabar wuxuu yiri walaal horta barnaamijka fiican ayaad wadaan ma sha Allah ilaahay ha idin dhowro waa su'aale ayaan qabaa emailka waan ku soo daalay emailka ka qaldan marka okay emailka maxamed oo emailkiina ku saxna waa faa'iiso u sax emailka oo barnaamijku iska leeyahay waa guurdoon okay waa guurdoon 70@gmail.com waa guurdoon 70@gmail.com waxaan samayn doonaa inaan buggayga kusoo qoro hadhow waxayd marka runtiina kusoo qoro anaa kusoo qori doona buggayga haddii kale waxay messengerka haygala soo xidhiidho aniga maxay hito u gudbin doonaa dadka oo matalanba emailka uu ka khaldamay ama uu ka khaldan yahay oo dhan maxay to messengerkayga ama messengerka hana waa nagala soo xidhiiri kartaan si markaan emailka idiin saxno insha allah koley daawadayaasha ama dadka asxaabta oo barnaamijka ku xidhanayna waxaan ogeysiinaynaa taariikhdu markay tahay 12 August insha allah waa sanad guuradii jilayaasha sanadka waa aniga iyo hana saalax waa goorta aan bilownay halgankayaga iyo filmadayada iyo maxay tahay barnaamijyadayada oo ku aadisan sanad guuradayadii insha allah waxaa markaas maalintaas 12 dadka London degan runtii aan ogeysiinaynaa in aan soo bandhigi doono barnaamij oo live ah oo si toos ah loo daawan doono ay ku jiraan riwaayado iyo guurdoon oo live ah assalaamu calaykum aboowe sheekh maxamed cabdigaas live baa tahay messengerkayga live kusoo dhawo barnaamijka guurdoon live aan nahay ha maxaa ka dhibanaysaa guurdoon هذا لايف أكو هذا ليس لايف سواق شعرت كبناك ويالا هاي سواقل هاي سودو هذا أصحاب تودن إن واقع سواقلين مركا إن محلي دلين يرادا مش كجرتو يقردون كا يعني هدي أهول جوكتت هدي أسويد جوكتت هدي النرويج جوكتت دنمارك جرماني all إن هدي قبل يكشران قاركوت يوروب joogo waxaan la soo xiriiraan dhalinyarada u haynaa hadii ay jiraan Sweden iyo Holland
dhalinyarada joogto waxaan leenahay nala soo xiriir ayna gabdhan u haynaa qadar haddii ay joogaan wiilal ayagana waxaan u haynaa gabdho London joogo oo u baahan rag qadar joogo ee raba inay guursadaan kadibna xagga ay degaan marka waxaan leeyahay de horaa waxaa loo yiri qofba wuxuu qof kala haya marka yacni meesha waxaan u fadhinaa in aan qof walba dalbaadkiisa u dhiibto iska kala faa'iidaysano marka baliis negativity-ga iyo naga daaya caatinta gabdhaha wajigooda maxay marsadeen iyo rinji bay marsadeen what is this how we bend our face anaga in rinji marka ceeb waa walaalidana nahay joojiye waxaas dumarka laguma mashquulo quruxdooda iyo libiskooda ilaahaba qurxiyayba maxaa dumar loo dhahay dumarku waa dahab soo maaha marka soo dhawaada cabdifataax cabdirasaaq waxaa tiri naaxishooda abooy soo dhawow adigna stilo ku soo dhaweyneynaa wax badan marba inaa aqrin waxyaabahaas wax wanaagaa ka qaadaneynaa soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada Australia ku joogo wax ma haystaa Saciid Axmed cabdifataax Australia aboow eeshka da'da soo sheega Australia gabdhaan ka hayna iyo maxay ahayd ayagana guurdoon ah haddii adiga guurdoon tahay noo soo gal messengerka caawa intaan fadhino aan kusoo jawaabnay Denmark rag iyo dumar way buuxaan Saciid Xasan Denmark rag iyo dumar way buuxaan laakiin still waxay hab ku yihiin guurdoon inay u raadiyaan calafkooda wixii Ilaahay u qoro hadduu calafka anaga Ilaahay noogu soo dhiibo waan u raadinaynaa haddii calaf aan ku lahayn de meesheeda may ka guursan doonaan insha Allah ku soo dhaweynana adigana adna ka dhiibo aan iyo no laftiga israjis garee samaha ha waliba waxweyn emailka runtii dad badan أنا مركز ترى وندهيا كلام كل علينا عاوة وحين قفكوا عدس ما كسودي بنيو ودينا إيميل كأو حفي عنه يسوي مفاهيم استفحيه سيدا مقال كيس كله دي سو كله يقفكوا شعلية هاي هدو يسوي متقانا قفك إكسترا تينغ ربنا وشيء غير هذا مثلا وحنشعلها هاي عنا كرسكا وحنشعلها دباشة وحنشعلها هاي وحنا قف فرحات بدن وحنا قف آمس بدن وحنا محيط وداد وحنا يعني قف وين استفدي سيد متقانا نفتي سنة ومارته وشرحات يركب هي انت السلام عليك برامج قردم كسر دو هاي سودو محمد برامج قردان كسر دو عاو لايف انا هاي ان يوتيوب يدينا waa aragtaa oo malay hadad ka daawatay gurdon marka balciisha caawa maxaa dalbanaysaa haye ما شاء الله بادية أنا قصة وعسى والله كوسو دو قردوبة بادية وقاريبة سودو هاي هاي واد عمانيسان بالواي عوشة نوفر هاي 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 مامي يقول قربي ور هاي قرصة مركب بريشة لو كلا بحا والله وقصلعه برك والله دج محمد جرى جد بدنا فريسة ملاينا عاوة شاكو ولي يقول عصب لقاهم بك مقل جري نقف باب بحي وذا هي الباب بحي قبل حلا أبهي باب بحي وحو جرى 80 something إن أبوه باب بحي وحو جرى 90 قبل 16 17 إلا واحد جربه ما شاء الله ايه maxaa gabadha adigu guursan weysa adigoo taag baa gabdhaha laga nigala qaatayba oo maxay waxaan rabaa waxaan ku sheegay mid adigoo dhalinyaro ah
gabadhi baadiya isla joogtay geela isla raacayseen maxaa keenay inay raacdo oday aabaheedoo kale ah oo ma kaxeeyaan marka mise bartaasay kaga tagaan ها marka hadda gurmad baa tahay gurmad baa too gurdoona timid waxaa rabtaa inaad gabar ku raadino ma gabar magaalaad rabtaa mise gabar asalkeeda baadiye ka timid haye ma marka ma haddii aan ku helno ka waran gabar iyadana 54 ilaa 60 ah oo weligeed guursanin ya good marka waxaa samaynaysaa guurdoon 70 emailkan kuu qoraynaa guurdoon 70 waa guurdoon 70@gmail.com kusoo dir maxamedo wallaahi caawa waxay noqotay baraaj in lagu kala baxo waan maqli jiro waan jeclahay oday aabahay inuu guursado awoowahay guursado wardaada ages number ma ogtahay laakiin ma filaynin in aan cabanayaan raggii geela gabdhaha isla raaci jireen la siin jiray in gabdhihii yaryarabaa nagala guursaday wala waan qosla caawa waan ka xunnahay aboowe dhalinyarada oo baadiyaha jooga oo rajis garaynaynaa annaga maaragtay ka rajis garayna guurdoon nala soo xiriira insha allah tacaala maalin waxaan idinku casuumaynaa waan imaan doonaa insha allah in wadankiina waxaan leenahay soo booqda guurdoon soo dhawow wallahi waa naga qoslisiisee haye faisa liiska shiikho waxaaba nagu jira oday 75 sano jira oo isaguna guurdoonaba hadda liiska ku jira waxaanu dalbaday gabadhaas inay haato gabadh afrika joogta gaar ahaan soomaaliya ma horta wallahi horta guurku anigu waxaan aaminsanahay guurka dawla ilaahay baa xalaaleeyay marka hadduu qofku 70 jira laakiin waxaan ka yar xumahay un dhalinyaradii oo dalkii dhex jooga in mataqaana hablihii facooda ahaa ama iskuulka la soo barteen amaba mataqaana sida adigoo kale maadaama tanin reer baadiya geela isla raaci jirteen inaad gabadhii yareedaad eeganaysayba haddii oday yar kaa hoos qaado dee marka idinka maxaa idin yaalla waa ina dagaal gashaan marka kuwaasaa idiin soo direena gabdho sharaf lahoo caruurtooda koreen oo dhaqan rabo ma fahamtay dee adinkana calafkiina ka qaata ma fahamtay gabdhaheena waa gabdho qiimo badan leh da-dii rabaa ha jiraan gabdhaha soomaali wiilashana sidoo kale waa idiin wada jecelnahay annaga haddii aad guursataan wiilasha iyo gabdhaha ajar baan rabnaa marka barnaamijkan baadiyaha qaybta aad joogtid walaal bliis sheergare daawada na soo booqda insha allah gabdho idin yacni idiin qiimeeyo oo iyagana u duceeya aabayaashaas ilaahay gurkooda kheyr allah oga dhigo adinkana iskaga qalay maxaa samayn kartaa ya sharaf le wallah maasha allah wallah la isku sheegay ina been waa waxaa la yiri beri baa dad baa daris noqday gabar Soomaaliyeed gabar Soomaali ah waxay aragtay gabadha u socoto time xisaabinay shaqada ka timid guriga ka shaqaysay ciyalku ay tuushu ka keentay kuwi kale geysay isir waa habi wali habi waxay ku tahay gurigeedaas markaas uu ninkeedu wuxuu yiri oo gabadha dariskaaga maanta meeqa maray guriga ka baxday adina hal mar ka baxday istil waa habi iyadoo qoslaysa ku salaamay يعني maxaa keenay kartida iyo nolosha iyo sidan oga dheernahay dadka gabdhaheena maasha wiilasheena the best waxa way Soomaali ayaga la isla ma fahamtay marka waxaan leenahay kulligeen baa soo dhawaad adna soo dhawow barnaamijka guurdoon waa naga qosli siisay khayr badan baa ku rajeeyna soo booq barnaamijka isla rajeys gare emailka noogu soo dir ما شاء الله محمد محمد thank you وبصوره وين thank you مرة بعديها اللايف كسبنا ان شاء الله ويدي صباقنا ها والله قصبه والله كمل كيو
inaan ka samayno agtooda anagoo joogno miyiga yaa bas ay maxamed oo loo iga qosayso sacaawa hay maxamed soo dhawa bowe ara ballan waa that's true wallahi waaba because hadda meeshaad adi nooga sheegtay waa la joogtay mogta laakiin gabadhi haddaad afkeedii aan kasoo duubno waaba damba waa buruuf cad ya marka hadday dhahda aniga noloshayda iyo 80 ku qanacsanaa waa runteed because lifekeedii baa mogtaa nolol bay galaysaa laakiin nin miigoo geel la raacayo walaalo adika waxba kaama helaysay samaaha marka runta loo hadlo he waa oga gabdhaha qaarkood aabahood waxay aabba ay ugu daray unbay iyadu u yeeli moogtaa laakiin ku qasbantahay ciddi baa guri loo dhisi ceel baa loo qodayaa geel badan baa xerada loogu soo shubaa soo maaha baadiyaha walaa shacabka caawa u sheekaynaysaa waa ku maqleen ahaa صح صح هيا الله يستغفر الله ما لما قرأ دورة شوان بوحسة هيا الله عاو قصب بدنا هيا ها صفي عن العكس وما يقوم يسكنه ما طبعا كومبا وروح ما دولار با الله يقف وحوق إله عذاب هاي ها لو بقول بقى قبل لو قاطعك يلا عيل بدنا هاي الله ما حق قبر يربين له شيء مساكين ها Oh my God, I feel sorry. ما يقدر قبل الله يا الله على الحموينة هاي الله على الحموينة ورقبناها يريركا نمك برك للصينايو ضدك هلا فيري إني بلود ليهين أنت صاي بورتنتي نيك هدو بلود لهين وعادي قبل ودقن كرا بليز yeah because عمي قرنا يا محمدو you see ما دق واحد جات كذا دق وقصو دقي مقطع دق مو راكسنو وصح والله ونوشة كي ساعة على الحموينة ماي صح وصح وصح
waa sax الله يسلمك aad baad umahadsantahay aad baad masamaanta caawid naga qoslisay so هيا بو محمد انا soo booqo naga soo wardoon soo gal emailkeena messengerka soo gal barnaamijka kugu soo dhaweynana waqti fiican nala qaadatay thank you والله قصل عاو ها والله ويلكم ونبي قصية ويل آدو فرحسنا وها كل برنامجكي برنامجكي جوردون أو ستة سوق دابنسان بقى في ساعة ويل برنامجك عاو حنا قصوي كرتان ماسنجركا هنا صالح كل سيدو إنكو شيء وحكم مقطعين إنكو إنو ميل بادية كسوهاد لي ها وين كجا هذا ليه قبله الصوماليات بادية تشوقي إن اللي يرضها آدو يريرا odayaashii qurbaha ka imanayay baa runtii gabdhihii ka qaaday namadii markaa waa wiil oo aad u xareysan buu ahaa muujinayana runtii maaragtay dhibka haysata dadka maaragtay oo Soomaaliyeed oo meel kasta joogaan runtii maadaama Soomaalida hadda runtii guurkii ay dhinaca lacagta ka eegayaan oo laga yaabo odaygii gabadha dhalay inuu gabadhiisii ka doorsanayo lacagtii dhowr $100 ama dhowr $1,000 isagoo markaa hubinayn gabadhaas ninka uu siinaya maaragtay maadaama qurbaha ka yimi baasaboor haysto aan hubinayn qofkaas maxaas buu leeyahay ma laha ma nin fiican baa ma nin xun baa ma wuxuu soo jeel buu ku jiri jiray ma drugs buu qaataa ma yani waxyaalo badan oo runtii guurka qofka maaragtay la rabo in maaragtay qofku ka fiirsado oo kale imika haddaan barnaamijkan aan wax yarin ka sheekeeyo dad badan baa runtii waxay dhahayaan iyagoo laga yaabo 2 weeks kaliya registrationka ku jira anigay soo wacayo kale ama hana soo wacayo dhahaya time baa igu socda maxaa ii dadajisa waa 2 weeks only idadajiya marka qofkaasoo kale runtii anigu advice ahaan waxaan ku siiyaa waxayna dad saa degdeg aad rabtid in maaragtay gabadh lagu siiyo dalkii tag waxaa laga yaabaa habeenka soo degtidba habeenka labaad bayna gabadh lagu siiyo laakiin annaga waxaan jecelnahay runtii gabdhaheena Soomaaliyeed ee qaaliga ah iyo inamadeenna Soomaalida qaaligaba ma taqaanin inay guur wanaagsan helaan oo maaragtay aan maaragtay hadhow dhibaato annaga ay naga soo gaadhin maadaama nahay gabdhaha barnaamijka guurdoon soo bandhigay runtii uu yahay barnaamijka ugu horeeyay oo runtii bulshada isku xidha telefoon baan qabanaynaa insha Allah I hope inuu telefoonkaas codkiisu uu si fiican u furmo halo assalaamu calaykum yarada su'aalahana soo weydiiyay hadhow kaga jawaabeynaa ها والله ست توصل قوم مقلية إن حاجات كسر هذا صار لايف بكوجرتا حد كوجرتا إن فيسبوك لايف بقى في ساعوي وبرنامج كيني جوردون إن محد ما أنت إن البرنامج كقريب قاعدنا يسا هذا كونكشن كوحية كعلي دمي كعلي دوك مقلوب بس مرة لو علي كسي في عيان ان مقعي حسو السنين يعني ويل با يسو قري ان وحن دونا يري ان واكا يركا ما وكان مين كل كيس no was that person in ما ابو ودن بي ابو كلا maxaa ku dhacay mise kolkii la ku soo dhaweeyay inta aan markiis supposed to be the last person سامع هو كان بحبه ساعة ما بيحكي كراك he has to be there اوكي كول تابو والله مو كان بحب وانت اللي داير لهذا المكان اوكي qofkaas kale telefoonku nagu soo celin karaa in connection ka laga yaabo in wax yar dadka qaarkood runtii u saamaxay inay si toos ah ay barnaamijka u soo galaan darsaaq wuxuu yiri fanax numberka ayaan u baahanahay numberka WhatsApp-ka caawa ma jiro waxaa naga soo wacay messengerka adoo raali ah Cabdishakuurna xaashi wuxuu soo dhiibay his email is good because uu kugu soo direena halkaas ka arkaysa baysa wada marka hadalkaaga okay kale usan sheegay barnaamijkan waxa kaga soo qayb qaadan kartaa codsigiina u soo gudbin kartaan emailka barnaamijku iska leeyahay waa gurdon70@hotmail.com waa gurdon70@hotmail.com ان عمر عبد الله وحير نبركينا وباهنا ابوي نبركينا متر عاوه مسجرك نوص نغسو ان شاء الله محمد او ماي جاد محمد ان waxa ku ron waqtiga na iska lumin iska jiifatid because nin dhahay naag waalan baa raba أعوذ بالله أعوذ بالله إنه وكحة مع أبوي مسجد كاد ويدريت إن شاء الله تعالى
mid kale ilaahay ka baq marka Ilaahay ka leedahay baq. naag waalan baan Subxaan rabaa Allah. in waalidu wax weeye meel fog ma jirto ilaahay baa dadka yacni dhibaatooyinka caynkaas oo kale oo waalida oo kale ama xanuunkaba wax weeye ilaahay baa dadka u keena marka inuu ilaahay ka qaado unbaa dadka maaragtay looga duceeya marka adigu inaad maaragtay aad ka dhigtid faan ka dhigtid iyo wax qosol gabadh waalan baan rabaa maaha wax lagu faano farxaan cabdi takar wuxuu yiri wiilka baadiyaha kasoo hadlaya wax dhab buu ka hadlaya because wax dhaca waaye samaaha normal waa wiil dhalinyaro ah baadiyo joogo suuqi bay ka qaataan yani gabadhii uu rabo isdhahaya marba mid sanadka guurso la sheekayso oday baa la siiyay yurub ka yimid tii ugu dambeysay ayaan dhawid baa nin la siiyey watuu ka hadlay sidoo kale ayadana sidee loo dhaaftay markuu reerka ka doontayn waxaa la yiri maxaa haysataa yidhaha guri nooma dhisi kartid oo cid nooma dhoofin kartid oo business nooma furi kartid marka wallahi reer baadiya xataa inay fikiraana fiican halkii kamal waa 1000 gabdhahooda caruur yaryar isaga bixinayaan qof aan la hubin oo kale rag fiican rag xun wuxuu isku dhex jiraan nin wanaagsan gurigiisu ku wanaagsan yahay kolley waxaa keenaysa halkaas odaygii qofkii waalidka ahaa gaar ahaan aabihii maslaxadiisu ka horreysiinaya inantiisa yani waxa weeyaan inantaada markaad korinaysid waxaa laga yaabaa in maaragtay aad ugu talagashay maaragtay day xitaa baadiya joogto kolli waxbarasho waxba toona ma haysato laakiin nin wanaagsan oo fiican oo mustaqbalkeeda ilaalin kara laakiin odayaasha qaarkood runtii de waxa weeyaan isagaa maslaxadiisa ka fikiraya waxaa laga yaabaa xitaa lacagtaas marka isagu ka qaatay qofkaas inuu isaguba kusii guursada laga yaaba sabab gabadh yar yes sometimes it happens oh my god noloshiisii laga yaaba ma lacagtu caruurta inaba email igu soo diray damaan dhaweed igu yiri arrintaa ka hadal faaysa cawile laakiin dabcan barnaamijka guurdoon inuu ka baxo xadkiisa ma rabno laakiin wallahi waa isdhimal xadda kama baxeen isku soo noqonaysaa soo maha waa guurkii aabahay ma kugu qabanaa qof kaloo lahaa isla hadlay maasha allah ma dhici kartaa in nin oday gabadha laga soo doontay xoolihii loo keenay markuu xoolihii qaatay in yar mooye intii kale uu asiga ku aqal galay wallahi waa wax igu cusub runtii hadduu aabaha hooyada ka dhimato kale wuu iska guursan karaa inaba wuxuu soo qoray cabdifataax baa wuxuu soo qoray gabdhaha soomaalida way burbuuran yihiin igada gabadh cadaano oo sneella ah iska hadlayaa waxa weeyaan hadda ka hor barnaamijka waxaa la soo xidhiidhay wiilal badan oo runtii ku nool dalalka yurub oo gabdho cadaana guursaday oo iminkadana caruurtii laga qaaday oo ilmahoodii xitaa aan isagoo xaafadda la degaa aan ilmihiisa xitaa la hadli karin because gabadhii caddeed ayadu de xaq ku leedahay in ilmaheedii koriso isaguna aanu korin karin marka gabadha cad waxa weeyaan dhibaatooyin badan iyaduna leedahay laakiin qof kastana dooq buu leeyahay haddaad rabtid gabadh cad waad guursan kartaa meelaha nolosha xor bay kuu tahay waa xatri khadro shaleemo okay maxaa kale wallahi runtii manta dadka aad iyo aad bay u faraxsan yihiin dad aad u qiimo faa maasha allah kamadka iskaleer in yar mooye bashiir baashe wuxuu leeyahay faayisay fashe bashiir walaalo waan ku aqbali doonaa haddaad tahay guurdoon waxaad kaloo aad okay telefoonkanaan qaban doonaa baraneegma telefoonkan lifean ku jirnaa may qoraal la u diraan insha allah tacaala السلام عليكم أبو لايف واي لايف أنا كجرنا لايف كأن وحكنا كم فايسة أبو كان وا كيجي مكلاف أنا كجرنا مقبض كسر علي دعوة هي أوكي هذا كوس درينا هاي برتو بس ترى درينا because فحولة إياه أوكي وقر فيسبوك قال سود وجر فائسة عويل إنه داود الربا مركب واحد يدير لي سود أحسس كنعو مركب قفك جور ورادنا يو at the same time أنا قوي شعلنا هاي ندك واوين مركب أما أباه وحاسك يكذبته أما يكحنوسته أما وقفك يعني that time وشعل هذا إنه نفتي سحر هذيو يعني ويسبات أنا قفك إنه جورسه لكن at the same time haddana complain ku jira in dhalinyaradii yaraa laga qaata basashakoodii gabdhaheena sidoo kale laftigood yani ay guursanayaan rag aad uga weyn ayagaba
okay oo geysa duruuf marka ages number anyway happy baa idinku wadanahay waxa waaye marka barnaamijka guurdoon aad sameynayso wax walbaa soo galaayo qasba inaan ka hadalno waxyaabaha ee dadka commentka inoo soo diraan marka soo dhawaad wixii su-aal qaba okay mid kale rabnaa runtii dadka saxaabta oo barnaamijka ku xiran oo emailka runtii aan codsigooda u dhiibtay kolle emailadii 95% waan ka jawaabnay sida barnaamijka markii hore baan ku furay emailadaas marka hadda aan ka jawaabnay 10 cishay soo socota within the next 10 days waa marka aan bilaabi doono yani eegi doono dadkaas oo soo codsaday guurka in loo heli karo maxay hayto dallamaanahoodii iyo in kale marka markasta wax weeye dadkii codsiyadii way soo dhiibanayaan 10 cisho ugu horeyso waa taamka dadkii loo gudbinayo emailadii iyo waxaasoo dhan 10 cisho kalena waa 10 oo markaa dadkii la eegayo because dad badan baa emailadii soo diray oo markaa la sameynayo wax la yidhahdo matching oo de la eegayo dadka horta dadka isku dadkeebaa laisku xidhiidhin karaa decisionkana wuxuu qaataa another 2 weeks oo kale u qaadanayaa because waxa weeyaan adigoo laga yaaba soo codsaday inaad guursatid gabadh Germany jooga oo Germanka joogta oo gabadh Germanka joogta marka iyaduna ay maaragtay liiska ku jirto baa laga yaaba gabadhaas inay kuu suurtoobi weydo amaba de maaragtay ay noqon weydo qofta marka anagu aan isleenahay because iyaduna waxbay soo codsanaysaa adigana waxbaad soo codsanaysaa marka markasta wuxuu qofku isu siinayaa muddo 6 wiiga intay xolashadu ku dhammaanayso email hadda waxaan u jeedaa hadda email baan u jeedaa inan xasan la yiraahdo wuxuu already u leeyahay maxay hayto 3 week ban faa'iisay maxay hayto aan ku soo gudbiyay maxay hayto codsigaygii welina waan sugaya 3 week ma nagu filna annaga su-aashu waxa weeyaan ma joogaan ma soo hadleen gabdho ama ma ku jiraan liiska gabdho adigu gabadha soo xulatay aad rabtid guurso iyadu ma nala joogta weeyaan gabdho kale waa laga yaaba inay joogaan laakiin adigu qofta soo dalbatay in lagu helo maadaama ay annaga ay tahay falowgeena inaan qabanno so time bay qaadanaysa marka please walaalayaal ha degdegina oo ha ka dhigina sheekada guurka in qofku markuu soo wacaba the next few days ba in la odhan doono okay waa lagu helay gabadh oo waa kaas ay noqon doonto guurku wax weeyaan ciyaar ma galo marka dadka aan u maleynayo in mataqaana ay guurkiiba ay u maleynayaan inuu mataqaana si kaftana iska geli karo no anagu gabdhaheena Soomaaliyeed wallahi anu gabdhaha Soomaaliyeed inkastoo inamadeenna Soomaaliyeed baan jecelahay laakiin gabdhaheena Soomaaliyeed waa walaalaheena kala weeyaan inan kasto imkadan guurdoona inan baa la dhalatay marka inanta walaashaaya waxa jeceshay inay guur wanaagsan hesho marka inan kasto oo soo sharaxa qasab ma aha in loo helayo gabadhu marka aan leenahay maxay hayto marka waa inaad adigu aad ka soo baxdo shuruudaha mar kale anoo ku soo celiniyo caawa shuruuduhu maxay yihiin kow inaad shaqaysid number 1 waa inaad shaqaysid waa inaad tahay qof ka bixi kara nolosha guurka iyo xaaska iyo sad guur u dhis lahayd marka haddaad tahay matalanba inaan waxbarta hadda oo waxbarasho ku jira dabcan waxaa laga yaabaa inantiina in iyaduna laftigeedu waxbarasho ku jirto marka taan bay qaadanaysaa in maaragtay labadii qof ay ka bixi karaan nolosha guurka marka shaqadu waa important haddaad waxbarashadii ku jirtid dhammee waxbarashadaada marka dhammaysid markaasaad adiguna aad noqonaysaa qof marka u diyaara in gabadhii aabaheeda aad la hadli kartid annaga markaad nala soo hadashid oo annaga niraahno allele inankaasu yani maxay tahay heblaa lagu xidhi karaa oo kale hadhow aakhirkii waxay sheekadu waalidkii bay gaadhaysaa marka waa inaad adigu haata nin diyaarsan de oo marka please inama badan waan u jeedaa oo aad runtii u wanaagsan oo waliba gaar ahaan Yurub jooga oo maxay hayto aan wali mataqaanaa ardaya aan u saamixin nolosha inay wali maaragtay ay shaqay wax ku hayaan marka inamadaas waxaan dhihi lahaa dadaala si markaas gabdhihii mataqaana iyaguna maaragtay ay yiraahdaan alla leh inankaas raalli baan ka ahay because gabdho badan baa markaan ku dhahno inankima shaqaynayo runtii dee waxa weeyaan ex bay ku saaraysaa hablii xoogaa waxay jecel yihiin dabcan iyo qof kastaba inuu qofku shaqeeyo marka please horta shaqada ku dadaala inta kale oo aan markastana aan yiraahdo anagu hadduu ninku xaas yahay waxba uma qabano runtii anaga xoog waxaan saarnaa dhalinyarada ama dadka aan xaasaska ahayn ninku hadduu xaas yahay anagu kaba soo horjeedno diinta oo dabcan way u fasaxday diintu inuu guursan karo 2 iyo 3 iyo 4 ba laakiin anaga haddaan nahay gabdhaha barnaamijka guurdoon qofku hadduu yahay nin guurdo xaas leh barnaamijkayga anagu yani maxay hayto waxba uma qaban karo marka taasna horta ha lala socdo waan u jeeda emailo badan oo inama le xaasas baan nahay oo laakiin weli guurdoona meelo kale waa ka heli kartaan guurka laakiin barnaamijkan
waa barnaamijka qofku inuu ahaado nin iyo gabadhba wuxuu doona ahaado inuu ahaado qof aan xaasayn markaas samiiro wanaag waxay soo qortay haddii aan dumar nahay yani dumarka nin shaqaynaya ayaan rabnaa because gabadhaas abdhi waxay kusoo celcelinayaan intaasay kusoo celcelinaya horta shaqadan ilaah baa bixiyo waa run gabadha qofka markuu shaqeeyo uu gurigiisii asiga samaysto uu noloshiisii samaysto gabadha uu ku weyn yahay marka runta loo hadlo qiimaa leedahay waayo qofkii xooggiisii bay guriga u keenayaa xooggiisii baa carruur loogu dhalayaa iyo nolosha buu ku dhaqmayaa wallaahi ragoo runta idiin sheegaya ilaahay khayr ha idiin siiyo wiilasheena qiimaha badan haddii aad shaqaysatid yacni naftaada habi baa tahay gabar iyo wiilbaa haddii aad gabadha u shaqaysid aad rabtid inaad guursatid ama aad rabtid inaad nolola samaysatid aad bay ku qiimaynay waayo gabadhii waa aroortay u shaqo tagtay waa soo noqotay yacni reerkaadii qiimo badan jaceylkaa badanayo farxaddaa badanayso yacni gurigaagii wuxuu noqonayaa inaad adiga maaragtay aad gacanta ku haysidba asalaamu calaykum abo life aan nahay barnaamij gurdoon hello madwaga caawa aada u xun dadka wiilasha naga soo wacaya afrika aadaan koolka caawo oon laysku maqlaynin bris abo haddaana maqlaysid oo kugu soo celinina iska dhig insha allah ma jiro topiga aan wadaaba ka bax maskaxdeyda marka maxay ahayde shaqada waa important ha shaqada ilaahay oo 2 hour 3 4 hour at least qofku inuu rabo xaasuuxi haddii ay meelaha dadka qaarkood hadda wiil baa habeen wuxuu ii soo qoray halkaasaan joogaa marba inaan meesha sheego walaa waxbana ma hayo marka runtii wallaahi runtaa fiican qofkii isla marka umaan jawaabin luuqa u galay yacni reesankii baan u sharxay waxaana wuxuu raadi hello sorry laysan maqlaay marka waxaan ka wadaa waxay tahay because haddii aan bartumoor registerka geliyo hebel halkaas jooga ee gabar usoo baxdo muxuu hayaa waxba ma haayo runtii adduunkan wuu isbedelay moogtahay yacni dadkii waxay noqdeen at least sharaftan way tahay waagii horena kolley way iska ahayd laakiin hadda adduunkii waxa waaye maadaama iska batay familgeeda burburkii waxay noqotay hadda in la isku soo dhawaado waxaa muhiima inuu qofku markuu yahay guurdoon inuu ka bixi karo nolosha guurka waxa weeyaan ma shaqeeyo laakiin waxa waa inaad shaqaysaa hadda haddaanad shaqayn waa inaad markaa shaqaysaa because gabadh baad doonaysaa ood reerkoodii ka doonaysaa ood nolol iyo mustaqbal rabtaa inaad dhistid laazim waa inaad shaqaysaa anu markasta intii ma dhaliilayo inamada weli aan shaqeyn waxa laga yaaba inamada jaamacadii dhiganaya time qaado isa sii ha degdegin jaamacadaada dhammee waxbarashadaada dhammee kabacdina shaqadaada gal you know كل ما فهمتي قبلنا قبل يقول سعيد برنامج تبغى إنا بقاديو يعني أنت داون يسو ما كلاسي التليفون قبل هدوم كذا نقليه كل خد كمان تعال والله بالله ما نقليه كناش I'm so sorry hello I wish وفعنا لنا وضع هذا الله أيوب كل خدك كونكشن كان واحد لنا ضعيفة أيوب علي وكحمة هاي صوت رجري أنا جنو صوت رجريني هنا إن شاء الله أنت كل لايف كتيرنو إن وأنا كوم هاد علنا هم بليادة يبرنامج كأنت قيمها بدن النص وقرتي إن شعب كاجر وكم قلايا أيوب سودوا برنامج قرا لك وضع لنا thank you عاو كل التلفونات وأركسان ويريهين سببت أتهنا وصب كذي رنتي عاو نصر توجدي إلى الفرنة خد كان قصة وعي كرتان وهنا صالح ماسنجر كذا so far dadka qaarkood waxa weyn connection ka halaysan gaar ahaan dadka Afrika jooga waxaan sii wadaynaa sharaxaadii qofku goordoon noqon kara kole ninka iyo gabadhaba inanta yada inankaba waxa weyn inanka mas'uuliyadda يعني أي سارنت هاي مركا إنك مركز طبعا حسان مركا ربع شجني إنه شقية وفي عنتاي دليرة يس قارب دون ولي شام عادي دقنية يس ولي وحبر الشيء بكرة يس لكن وحويان هالدقدقين تام يسسي
intaad maaragtay shaqo gelaysid oo kabacdina gabadhii markaad tiraadid xaas iyo guri dhan baad dhisaysaa life dhan baad dhisaysaa nolol dhan baad dhisaysaa caruur baad dhalaysaa so inay shaqaysid way fiican tahay marka yacni iimaylada nagu soo noqonayo baan anagu runtii aan arkaynaa ay dadki leeyihiin noo dedejiya iyagoo markaa runtii haddana aan shaqaynayn iska hadlaya dadajis meesha ma jiro because you need inaa cv-gaaga filgaraysid waay you feeling letterka markaa buuxinaysa your name and last name you know in agekaaga da-daada waxaad qabatid waxaad jeceshahay waxaad samaysid after that marka please adigoo formkii buuxininba aadan dhamaystirin ma shaqaynaysa inaa formkii cad magacaaga kaliya qaadno iyo da-daada iyo meeshaad joogtid waxaan rabnaa inaan ogaano waxaa qabatid waa nadaga aad u xun ayuuba waxaa tiri codkaaga halo waana maqlaysaa ayaa tiri laakiin isma maqlayno halo sorry ayuuba waa ka xunaa inaana maqlin marka insha allah messageka commadka banaanka waxa ugu soo qor meesha lifeka hadda lagu jiro insha allah waana kuu mahad celinaynaa waxaa laysa maqlaa comment baa jira aan rabo inaan ka jawaabno okay ka jawaab markaa daba inan baa comment soo qoray isiya facebook inan baa soo qoray commentka samir wuxuu yidhi samir inankii waa inan xaasay waa samir waa samir hiiraan سمير هيران waxaa soo qortay asalaamu calaykum waxaan ahay wiil 28 jira shaqeeya naag iyo caruur leh gabar 30 jirta aan doonayaa maasha allah horta ilaahay ku dayo xaaska iyo caruurtaba laakiin barnaamijkan waxa weeyaan runtii aad baan uga xumahay waa barnaamij aan ugu talagalnay in dadka aan markaas yacni aan weli guursan wax loo qaban karo dabcan adigu maadaama tahay inaan soomaaliyeed oo musrina waxaad awoodi kartaa inaad 2 iyo 3 iyo 4 ba guursatid laakiin barnaamijkan waxa weeyaan waa barnaamij anagu hadduu ninkuba hadduu xaas yahay runtii waxba loo qaban marka maaha inaan maaragtay cunno qabateynino soomaaliyeed just waxa weeyaan maadaama anagu diintu way ogoshahay waan ognahay laakiin annaga waxaan dhisnaa inaan wax dhisnaan jecelnaa gurka cusub cusub dhalinyarada aan guursanin dadka maxay ahayde soo guursaday soo kala tageen still qof guur soo mara xataa anagu waa reeb laakiin qof aan xaas aan lahayn nin iyo rag iyo dumarba inta labada dhinacba marka naga raali noqda ragga xaasaska ah ee caruurta leh ilaahay meel kaloo ka qayroon allah idinkaga sahlo haddii aad gurdoontiin marka waxa weeyaan yani dad badan baa runtii noo soo qoraya maxay hayto maxaa u diidaysaa nimanka xaasas kale in maaragtay loo raadiyo anaga horta barnaamijka guurdoon we don't need complain mogtahay sama inaan kala soo qoray guurdoon muxuu soo qoray maxaa nimanka denaa xaasas kale anaa oga jawaabaya taas guurdoon waxa waaye guurdoon is qof guri dhisaayo gurigana ilaah baa nala dhisi karo annaga human baa nahay ilaah baa nagu caawin karo at the same time maxay ahayd maxay ahayd dhibka ma jiro inaan annaga dhalinyarada ama dadka guurka soo maray aan aroosino laakiin waxaan nacaynaa maadaama barnaamijkeenu uu socdo muddo 6 bil ah in aan annagii complain hadhoodii oo dumarka noo yimaadaan guurdoon waxaan u mooleynaya dadka inuu guuriye ma aha guryaha ma burburiye marka annaga guurdhis mooye guurdumis ma lihin kamana wadno nin naagna haddii aan guurino guriga kama wadno winoo complain annaga laakiin ma sameyno nin reer leh inaan reer kale u raadino kusoo dhawaad barnaamijka guurdoon adikoo raali ah kale barnaamijku waa gabagabo dhammaan asxaabta barnaamijka ku xidhan aad iyo aad baan uga xubnahay inuu runtii caawa uu wasabkii uu maaragtay uu suurtoog weeday inay dadku soo wacaan messengerka hana saalax baa ay ahayd in laga soo waco dad badan baa runtii connectionka awgeed marka we try in maaragtay inaan hal qof ama 2 qof aan ku celino maxamed inanka akhirasi uu ka baxay isaguna just waxaan asxaabta dhammaan ogeysiinaynaa
bisha 12keeda in barnaamijka guurdoon si live ah uga daawan doontaan xafladda aan kusoo bandhigi doono aan ugu soo bandhigi doono dadka gaar ahaan London degan xafladdaas oo 12 August laga dhigi doono Shepherd Bush area waa London xafladdaasoo aan kusoo bandhigi doono laba film laba riwaayadood iyo guurdoon oo live ah markaas habeenkaas waxaan soo gelin doonaa insha Allah barnaamijka guurdoon isagana live oo markaa nagala daawan doontaan iyadoo dad badan iyo bulsho badan markaa inay la joogaan insha Allah waa 12 August barnaamijkan waxaa sponsor gareeyay Some Star Restaurant oo ku yaala London UK Harlesden area aad ka helaysaa cunto aad u macaan oo healthy ah soo dhawaada waxaan halkan ka salaamaynaa milkiilaha restaurantka Cabdifataax iyo familigiisa iyo waalidiintiisa waxay idin leeyahay diwaanka hambaliya idinkana waxaa nasiibsateen guurdoon yacni barnaamij qiimo badan aad ku sponsor u samayseen uu ahaa qofka ugu horreeyay siiyo sponsor insha Allah wuu soo maray dad badan laakiin maana calfanin wax kasta waa nasiib laakiin mid aan si toos ah uga soo dayna waxay noqotay Some Restaurant oo London ku yaalo aad ka helaysaa cunto in ciidaha xafladaha aroosyada soo dhawaada marka inta aan mar kale aan la kulmi doono iyo barnaamij kale oo guurdoona waxa barnaamijkan iyo barnaamijyadii kale guurdoon iyo filmada anagu aan wankolba qabanayna oo messenger inaga raal noqdo dhowr badan soo noqdayba try inaan baarabna we try isi waxa la isma maqlaay we try one call dhammaan asxaabta barnaamijka ku xiran runtii anagoon soo koobi karana waan salaamayna qalbi furan ku soo dhaweynayna waan u jeedaa commentyo badan dabcan qof kasta commentkiisa ma akhrin karno laakiin intaan saano markaas waa muhiim baan ka jawaabaynaa وكجو أهدان ما جا أهدان أنا ويكل أجين سبحان الله هو ده أضحن نجرها على نقطة أصحاب تا كهلسن وحي أنا سؤاله هدي وح سؤال قبتان رنتي وحيستان 5 minutes كلي هيستان وحي سوق قرانا وان إيجرينا هدي وح سؤال قبتان يصير لطف قرآن كل وحري اوكي طبعا waxaan akhrinaynaa ma sha Allah waxaan jeedaa su'aal السلام عليكم ايوه سو قرأ من اللقيابة جنبرعو وانك حمهي محيري إنك which one سلام والله محمد علي أوجوغا مقالة برعو وانك حمهي داعونك كدلاعي دلك وارنتي جمال إلهي وحنك قبريايا عافيمات دقدقة انتو كدلعه برعو iyo Soomaaliland okay soo saar war maanan hay waxaan u maleynay maxamuud bise guurkii inuu ka wada u maleynay maxamuud horta aniga caawa lay sheegay runtii maanta lay sheegay oo lay sheegay inuu cudurkaasi uu ka dilaacay maxay heeto in kale Soomaaliland meel kamida ilaahay waxaan uga barinaynaa in dadka Soomaaliyeed degan ama burco iyo Soomaaliland iyo meel kale oo runtii laga yaabo cudurka kolarada meel badan oo gudba uu faafaa in ma taqaana ay isku taragareeyaan dadku inay runtii biyaha ay karkariyaan oo aanay biyaha maaragtay kale yani maxay heeto burco waxa laga yaabaa dadka guryahooda yani waxay leeyihiin qasabaday leeyihiin waxa soo qaar laakiin dadka aan talabaan qasabadaha lahayn biyaha loo soo gudbiyo meel kale loo keeno inay biyaha iska kululeeyaan waliba aad u kululeeyaan meelaha ugu dhow markaas adduun matalba qofku iska dareemay inuu cudurkaas uu ku dhaco meesha marka uu isleeyahay ugu dhow ama dhakhtarana markaas ba uu iskeeyo hadduu iska shakiyo wallahi waxaan anigu isku taragaranay bal wax kale advice inaan raadiyo maaragtay sidii aan looga hortagi lahaa cudurkaas hadda imkadan soo faafay aniga today baa laysoo sheegay runtii iyadoo runtii aniga family aad u far badan oo maxay tahay familkayga ay magaalada Buumaanta ay ku sugan yihiin ama ay degan yihiin marka horta taas waa tii kolarada ilaahay caafimaadsi umada insha Allah soo far laba qof baa dhintay sida anigu sheekada ku hayo ilaa uu hadda waa sheeko hadda cusub oo bilowday the last couple of days marka ilaahay labada qof dhintayna ilaahay ka qaado labada qof dhintayna waxa leenahay
dadkoodii iyo ehladoodii samriye iimaan halkan kool baan eegaynaa barnaamijka gurdoon waxaan aad u jeclaada caawa inaan u hambaliyeeyo madaxweynaha khayre ra-iisul wasaaraha khayre oo maxaabiis badan kasoo daayay nooga xirnaa addis ababa insha allah waxaan rajaynayaa wadamada kalena inuu ilaahay nooga soo dhigo liibiya iyo shiishilis dhalinyarada ku xiran in laga soo saaro wallahi habeenhooda aada u calal xumaaday wiil 26 jir ah aada u mooda inuu jiro 40 wuu dhammaaday wiilashu way dhammaadeen ilaahay u barya dhalinyaradaas dowladdan waxaan leeyahay please and please dhalinyarada shiishilis ku xiran iyo kuwa liibiya ku xiran iyo inta nooga hartay etoobiya please soomaalida burbur baa dila way dhammaadeen okay inta in la soo daayo wax loo qabtaa inta dadaal khayr uu sameeyay intiisa kale u dhiman waxaan leeyahay thank you madaxweynaha thank you ummadda ha loo dadaalo jira jooga dowlad sharaf la maantaan helnay waayo waxaan intaas u leeyahay waxay tahay waa dowladda hadashay noqday u hadal shacabkooda u hadlo waa idiin wada jecelnahay soomaalida waxaan leeyahay hambalyo soomaaliya ha noqonina dadka kasoo horjeesta madaxdooda dadkeena soomaaliyeed waxaa ku badan negativeka ku badan haddii wax ay arkaan hadday wax dadkeena soomaaliyeed waxaa ku badan negativeka ku badan hadday wax fiican arkaan still waxbay ka sheegayaan hadday dee waxna la sameyn waa still ku xaran lahaa ku daba safta wanaagta oo la shaqeeya bulshadu waxay ku tahay dadkooda dadkeeda bulshadu wax ku tahay madaxda waxa weyn iyagu waxa weyn waa shaqada loo diray weeyaan inay qabtaan madaxda oo marka dawladda imka loo dhiibay matalba maxay tahay madaxda Soomaaliya farmaajo iyo khayraba waa madax yani inaga noo shaqeynayaan hadaan nahay bulshada Soomaaliyeed hadaan nahay shacabka Soomaaliyeed laakiin idinka shacabka Soomaaliyeed waxa la ka rabaa inay idinku isbedel keentaan oo taageertaan oo idinku la shaqeystaan hadday idinku la shaqeyn weydaan iyagu waxba ma qaban karaan farmaajo way daalay way qalbi jabaya maanta dawlad fiican noogu dhowdahay Soomaaliya please facebookida la isku cayna wax la isku diray iska daaya qabyaaladana joojiya markaan arko qabyaaladana joojiya iyo dadka kale waxay isu gelinaysaa wala qalbiga ijabo because maanta dawlad noogu dhowdahay ma dhicin habaar bana loo soo diray habaarka dibma lama qabanay habaar oo duceysanay intii aan dawlad jirtay ee burburkii ugu dambeeyay yani wax hadlahayo nool ee maxabiis soo daynayo khayra ka arkay ilaahay khayr ha siiyo madaxweynaha farmaajana ilaahay asna khayr ha siiyo ummadiisa wallahi marka arkay wiilka yaray 20 jirka ooynaay uu dhahay aabas qarab baa leedahay wallahi dream ya habeen diyaar ka soo deganaysa muqdisho oo maxabiis wado ma sha Allah ilaahay xamdigiis waay uu ku faraxnay marka please waa idin baryaaya Soomaaliya klibada isku duuduubaysaan ee isceeceynaysan naga daaya qalbi jab nagu tahay qofka wadaniga taageera qabyaaladan iska daaya waxa ma tarto madaxdan wadanka maamulaysa way duceysayeen labadaas khayro iyo farmaajo u duceeya taageera wadanku hagaago dhulku hagaagay warso dhalinyaradu way baabaaday war inta xabsi nooga jirto inta bad nooga dhimata noogu filan please dalka iyo dadka isdifaacno ilaahay idin daaye khayr baan leedahiin inamada Soomaaliyeed kuna caayida joojiya hablihiina caayineysaan ka daaya caayida hablahaas caayisaan waa walaalihiin waa hooyooyinkiin ka daaya caayida shakhsiyadiina wax ka bedela wallahi inamada Soomaaliyeed waxaad u malaysaa markay arkaan inan Soomaaliyeed oo meel fadhida markay arkaan gabadh Soomaaliyeed oo meel soo fadhida inay wax kale ay sameeyaan markay waayaan inay gabadhii uun caayaan marka caayida ka daaya I believe in wiilka caayinta soo qoraayo wiil hooyadii caaya kulli maya I believe ba inuu bajalas ka yahay qof dumar oo hadlaya meel fadhidaba because why yahay wiilasha hooyooyinkood dila ama walaalahood dila ama wiilasha waalidkood ama caasi waalideen yahay baa dhici karta ama nacab qof dumar oo meel soo fadhiisato yani aan la challenge garays that's I believe qurbaan joognaa ama wadanka aan joogno Soomaali waligeed gabdhaha shaqeyn jireen way bixi jireen way qabsan jireen wallahi waa ceeb weeyaan in mar kasta gabadh Soomaaliyeed markay meel soo fadhiisato waxay ogaataan gabdhihii Soomaaliyeed oo taqaaniin oo matalan ba gumeysiga ku jiray way isbedeleen gabdhihii Soomaaliyeed waxbay barteen gabdhihii Soomaaliyeed waa gabdhaha hadda Soomaaliya dhisaya Soomaaliya imika haddaanay naag Soomaaliyeed aanay jirid lahayn wallahi Soomaaliya ma jirid lahayn taas oo ogaada guri kasta hadda oo Soomaaliya ku yaala gabadh Soomaaliyeed baa beelinaysa walaasha baa beelinaysa eedada baa beelinaysa ma garateen
marka waxa weyn ragga Soomaaliyeed ee gabdhaha Soomaaliyeed saan ugu dhigan adduunyada markastaan arko waxaan arkaa ragga dunida ku nool gabdhahooda way faaniyaan gabdhahooda waxay leeyihiin dumarkayaga idinkuna waa dhaliilaysaan 24/7 afar waliba cayda yani fawaaxishta laakiin ma wada aha wiilasha qaarkood waaye 3 people baa arkay hadda caytu ku soo qortay hada saddex qof oo midna habaar mid wuxuu nagu habaaray wuxuu yiri cudurka daacuunka ha ku dhaco wuxuu naga rabaa bisinka kaas waxaan leeyahay adiga ilaahay ha ku gurdo okay kaas waa mid labada qof horta hadalada xuma anigu aan afkay ka soo saari karin oo soo qarina waxaan leeyahay shooda qorasi ku noqonaysaa shooda waxa weeyaan walaalihiin oo kalaan dhahnay baan nahay naga xishooda marka anyway barnaamijku waa gabagabo anaga ifaaysi inta soo ugu soo hambalyeynay adaba wiilkaas waliba wuxuu rabaa inuu wuxuu leeyahay gurdoonba ha gurdoon arkiis oo ka fikiri doonaa waxaan intaas idin kugu soo darnay barbaryahana klibiya badan daawanay wadanka uu soo hagaagaya answer ha answer I think callkii ugu dambeeyay haduu wanaga waan please inuu qofkaas uu yeah you can have in the voice hello assalamu alaykum abo cod kor u qaad dadoo raale codka kor u qaad walaal connection-ka waxoogaa yara daciifa kusoo dhawow waxaan u maleeyaa waa koolkii ugu dambeeyey oo la sugayay waxoogaa barnaamijka guurdoon kusoo dhawow si live ah baad barnaamijka ugu jirtaa maxaad jeceshayd kaga qayb qaadatid barnaamijka ma guurdoon baad tahay mise barnaamijka iyo annagaadna salaamaysaa maasha allah horta wayna salaamaa ayagoo anaa saarax wadaniinta aad taageero iyo sidoo kale faa'iisa okay magay wacdikaaf farayare oo jooga magaalada muqdisho maasha allah muqdisho balmaanta ka war cabdikaafiyo nadiifinta sida loo nadiifiyo xaafadaha aan bari hadda wallah lagu fiicay dawladda isqaad wadanka oo israaciil shaqada Soomaalida midaan sugan insha Allah ma sha Allah saarax soo degtay muqdisho walahi fays way maanayna shawiga ka waran caawa way maanayna maasha Allah walaal insha Allah adna sidoo kale oo ku soo dhaweynayna muqdisho wallahi waxaan rabnaa Muuse Galaalka iskuulka Cismaan Geediraag meelaha mar jirnay inaan marnaa tagno insha Allah horta barnaamijkan aadin oo maasha Allah aad qiimad celinaya bulshada weysiin okay mukus barnaamijka hadda ka hor ma markii ugu horreysay soo wacdid mise hadda ka hor waad soo wacday cabdikaafi markii ugu horreysay aan qayb galo waaye okay nasiib Muuse weeyaan okay guurdoon ma tahay markaa in badan guurdoon marka maadaama hadin oo qabeesh barnaamijkan in ana talo la isiiyo okay ana ii qalabto kale okay ejkiisa iyo weydii marka okay da'daadu waa imsa cabdikaafiyo da'deedu waxaa waaye 23 sano ما شاء الله إن أنا أدو يربى تودن يرى مركب محبرشة كتير تام سأوريد محبرشة ولا دمستي student أوكي مركب وحشة قامة هاي سام سوولي إن شام عندهم بد يعني كتير تولي قلن شبيه شقة سوقة أوكي مسألة كي مركب وجود بيسات شام عدا من سوي حوين ميكاب بلوضي محا برتا مر اوكي ما شاء الله عبد الكافي محا برتا واسبجت قد برتا waxaan bartaa facultyga economic اوه ما شاء الله departmentiga public administration ما شاء الله good course بس سمعنا كنتي شقوينا public administration وكلا وحويان يو public relation بكل شقوينك لو قبها هي الصومالية قرارنا مقدشو maanta looga baahan yahay markaad kulli shaqalaan u malan maanay kugu dhici doonto markaad waliba gaar ahaan adigoo ka qalin jabin muqdisho anigu markasta waxaan madaxda Soomaaliya u sheegaan yiraahdo dhalinyarada ka qalin jabinaysa magaalada dalka dhexdeeda waa in la siiyaa iyaga safar hore opportunity la siiyaa opportunity in la siiyaa ma aha qof Europe ka yimid passportkiisa in la siiyaa no please dhalinyarada u baahan ubaxa dalka tiiso maaha marka maadaama inay yar adinka ubaxa dalka adinka xaq nooga leh aad iyo aad marka maadaama inay dhalinyaro tahay gabadha jeceshahay inaad maaragtay aad mustaqbalka nolosha la wadaagtid ma waxaad jeclaan lahayd inay muqdisho kula deganaato mise inay dee Yurub iyo meelo kale ay joogto walaalo horta aniga gabadha ma fiirnaynin degan tahay kuwa waxaan fiirnaa gabadha inay Soomaalida ugu diriyada fiirnaa meesha rabtaa joogto okay mش okay si fiican meesha rabtaa joogto si wax fiican waa qofka calafka lagu darayo ha
That's ما good. شاء الله وصفي عن مركب صدق عشة قبل داس إن ماركتي صدق عشة قبل داس يعني دقديدا إن محيط مقال كذا يو يعني صفة محد نغير شيء كتا قبل تعشى هنا المستقبل كنا مش لو gabadhaas anigu maasha allah waa su-aal fiican gabadha waxaan jeclaa in horta inay tahay adiga jiro أوكي adiga ay tahay gabar macnaha إلا دقدي يمسى تري عبد الكافي 17 sano abo 18 over waa cabdikaafi abowe da-daasna aada u yar tahay ها haddii aan wadankii kaaga helayno gabar 18 waa ku heli karnaa Ah, Soomaaliya. adiga marka marka baa macnaha waxaa meesha ugu hooseysa waay abo maya register maba ahaba barnaamijka 17 18 over waa ha because anaga Europe aan joognaa soo maaha age-ka in waa sharciga wadanka ku xiya waa 18 over gabadha yani adult tahay guri looga tagi karo guursan karto camal أوكي wadankian macnaha aan saacadiisan macnaha صح waan fahmi karaa iyo haatu saasay laakiin maanta marka daweydkan aan Soomaaliya ka adiga waxaa waa xagga marka la waa adiga 20 ama 21 oo kale صح صح ما دام جرتد هرتا ما دام جرتد لبيه 23 ما دام جرتد I think 18 year over Okay, 18 it's over. okay قبل No سديت problem. من سنة جرتا اللي 19 بس اوكي سما alla isaas waaye sidoo kale inay cadaan ahayn madow ahayn maariin midabka Soomaali waa laga helaa kalarkaas ma إني هاته مدب كليرادو أخضر أخضر جبسكا جبس. هاي alla isaga alla isaga xagga jahanad xagga tiin أخضر جبس اوكي مثلا بوحويان اوكي موقالك is okay لكن محيط ما حد تعيش قبل إني قبل ما كان وحبرنا سهاتو قرو شوكتني هاتو قبة ورانيا حافظ القرآن يعني صفوين horta diintu waa very important salaaduna waa very important of course very important قبل كسر Soomaaliyeed diinta waaye qof korti waxa waaye diinta waxa waaye qodob koobaad waaye طبعاً. salaada macnaha waxa waaye ay jahilada fashil waaye hadda madriimisa ninka wuxuu ka mudayay صح diinteeday akhrisanaysaa قبل وحبرتي اوكي دينته طبعا وحنا هاي ضد مسلمين وضدنا هاي لكن waxaad jeceshay ida diinteedii haysata inay haato gabadh waxbaratay aqoon leh sax okay يعني fahmi karta wax fiican walba cilmi leeyahay waa wax wanaagsan ها كل hooyada hadii cilmi leedahay waxaa laga yaabaa inay Carruurteeda ilmaheeda wuxuu jira ilmaheedu bay saacidaysaa taas waxaan ku aragnay cabdikaafi oo marka qurbaha la yimi waxaad arkaysaa gabadhii marka tahay gabadh markii hore maaragtay xagga waxbarashada ka dhisneed ilmihii yani si fiican bay ula safaagarowday laakiin gabdhaha mataqaano oo markaa yani aan jaanis helin inay waxbartaan dhib badan baa runtii kasoo gaadhay marka okay gabadh waxbartay no problem waxaad samaysaa waxaan ku siinayaa messengerka hana ama kayga soo gal emailka codsigaaga isagoo faahfaahsan guurdon 70@gmail.com waa guurdon 70@gmail.com boggaygan soo saari doonaa hanana way soo saari doontaa adigana haddaad messengerka noo soo gashidna waan ku siin doonaa adigoo markaad waxaad doontid markaa aad yani kusoo qoraysa si fiican mataqaana all the information cv-gaaga mataqaana maasha allah waana kusoo dhaweynaynaa abowe barnaamijkana waan kugu soo dhaweynayna aad iyo aad iyo aadna waad mahadsan tahay ما شاء الله walaalo thank you thank you thank you إن شاء الله وحنا ملاني هدان مقدشاني ما دمت نسود وينيسا عبد الكافي يا ما شاء الله ما هي ولا سو دو thank you إن شاء الله مستقبل كون رجالنا ندين بعدنا إن أنا وتقوم هالسنتين البرنامج كسو قيب قارتي thank you very much وحويا ومركلة إيو برنامج كيني جوردون هبين وين أكسر عبد الكافي اوكي دمان برنامج كل برنامج كي وقبل ويل runtii aad u faraxsan oo muqdisho kasoo hadlayay dhammaan dadka salaameyna iyo dadka Soomaaliyeed meel kasta ay ku nool yihiin iyo buqacad kasta oo Soomaaliyeed oo qof Soomaali ku nool yahay barnaamijkan laga yaabaa in ay daawanayaan waa mar kale iyo barnaamijkii guurdoon waa aniga Faysa Cawila ahana Saalax dhammaan waxaan kaga tegaynaa سلامتي إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته